السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتبة إسلامية maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii labaad ee kitaabka. laakiin arrintan talo oo kale ma soo gelayso labada kooxood ee dagaalamaya markay mid iyadu daalimo tahay oo dulmigu ku cad yahay midna madluumad ay tahay iyagu taas ma soo gelaysa ee xadiidkii kale ansur akhaaka daaliman oo madluuman taasuu soo gelay marka cali madluum buu ahaa waa laga gardaraa isaga khaliifiya xaqa ahaa oo la doortay ah marka isagay taageeradiisu waajib ay ahayd oo abubakr radia allahu canhu tadbiiqa isaga ah waa ku qaldaraa radia allahu tacaala canhu laakiin marka kolkii labada kooxood mid waliba daalimada ay kale ay soo weerarayso sida dagaalamada qabaa'isha iyo ka dhexdhaca iyo tan jabhadaha soomaaliyeed ay ku dagaalamayaan iyo oo qolo waliba markeeda ay duulayso oo qolo waliba ta kale inay ka adkaato ay rabto xaqdarro ay ku dagaalamayaan taasoo kale weeye laakiin qof isagu muxuu ahaaye madluum ah isagu kaasi kuma jire xadiidkiisa isagu gaarkeeda u imaan doontaa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جamاعة tukashada qofku jamاacة uu ku tukadaayo تزيد waxay la dheertahay عalىa صaلاaتihi fي suuqihi salaadiisa sayladiisa uu ku tukado meesha wax lagu iibsadaa suuq la yidhaaha ama saylada haatama dukaanka haatama wa beytihi iyo gurigiisa uu ku tukaday waxay la dheer tahay 29 daraja dhowr iyo 20 darajadood bay la dheer tahay waa salaad iyo salaad ficilkii waa iskaga mid laakiin waxa kala duwi doona waa arki doona wadalika kaasuna wuxuu yahay sababkay sidaa ku noqotay ana axadahum midkood idaa tawada'a markuu weyse qaato fa axsana alwuduu'a uu weysaqaadka wanaajiyo waa laga maarmaan marka weysaqaad wanaagsan oo sidii rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam ugu weyse qaadan jiray ah ee saxaabadiisii ay tilmaameen cusmaan iyo cali iyo cabdullaahi ibni zayd iyo rubaya binti mucaawid waqayr ay tilmaameen uu weyse qaato uma ata almasjida haddana masjidka uu yimaado markaasaa macnaheedu waa in guriga lagu soo weyse qaataa fiican laa yuriidu isagu oon rabin ila salaata salaad mooye wax kale aan rabin laa yanhazuhu aanu dhaqaajinaynin oo aanu soo kicinaynin ila salaad salaad mooyaane wax kale soo kiciyey dan kaloo kaliya aanu jirin salaaddaa hadduu dabadeed wax kale kusii darsado khayraad kale darsi uu isagoo ka bixinayo ama darsi uu dhagaysanayo iyo qur-aan uu aqrisanayo iyo hadduu taa kusii darana waa sii fiicnaanaysaaye lam yaktu ma tallaabsado khudwatan tallaabo ma tallaabsado ilaa rufica lahu bihaa daraja darajad baa loogu dallacsiiyaa tallaabadii kastaba oo darajaadka jannada ahee labadii darajaba inta udhaxaysa ay tahay kamaa bayna asamaa'i waalard wa xuta canhu bihaa waxaana lagaga ridaa khatii'a dembi baa lagaga ridaa xataa yadkula masjid ilaa masjidka u ka soo galo tallaaba kastaba waxaana imaan doonta qofba qofku masjidka uga fog yahay inuu ka ajri badan yahay faidaa dakala almasjida markuu masjidka galo kaana fi salaa salaad buu ku jirayaa oo salaadda ajrigeed ba u soconaysaa maa kaanat isalaatu hiya taxbisuhu in alla intay tahay salaadu tii halkaa ku celinaysa wuxuu halkaa u fadhiyaa salaad sugiddeed inta ay tahayba ajri salaadeed ba u socda waalmalaa'ikatu tusallii calaa axadikum malaa'igtuna way u ducaysaa tusalli yani tadcu waxay u ducaysaa midkiin bay u ducaysaa maadaama fii majlisihi aladii sallaa fiihi in alla intii uu daa'imo uu sii joogo meeshii uu ku tukaday meeshuu ku tukaday intuu joogaba walow salaad kolka aanu sugayninba way malaa'igtii ba u ducaynaysaa meesha uu ku tukada ee la sheegayo ma masjidkii oo dhan ba mise waa halkii uu fadhiyey nafteedii labadaasba waa la sheegaa laakiin waxay u eg tahay oo iyadu de kollayba muxaqaysa noqonaya meesha iyadahayd inuu laazimo yaquuluuna waxay dhahayaan siay ugu ducaynayaan weeyaane allahuma arxamhu allahu naxariiso allahuma اغfir lahu alla u dembi dhaaf allahuma tub calayhi alla ka tooba aqbal maa lam yu'di fiihi intaan wax dhibin wax dhib ah intaanu qofna u geysanin maa lam yuxdid fiihi intaanu weysaqaadka ka jabin saddexdaas markaas labadaas shardi bay leedahay intay markaas ducaynta u ducaynayso inuu meesha saddexdaa shardi inuu meesha iyada ahayd sii fadhiyo inaanu qofna dhibin
ficil iyo hadal iyo midna aanu ku dhibin inuu wayseqaadkiina u dhowran yahay shardi kale isaguna marka jiro oo maa lam yatakalam intaanu hadlin hadduu hadal adduunyaad ku hadlo khalaas ducadii malaa'igta waa ka go'day marka qofkii isagoo iska fadhiba malaa'igta alle ku shuqlan tahay inay u ducayso ayaankiisa markaa bashiiriya alla waa u aqbalaya de malaa'igta aan dembiga lahayne daahiriinta ducadooda alla waa u aqbalaya marka waa inuu ku dadaala qofku bal intii kolkuu meeshii uu ku tukaday inuu waxoogaa ku yardaaho waa inuu durba furq ka soo dhihin waa inuu waxoogaa ku yardaaho meeshii uu ku tukaday si uu fadligaas weyn u helo uu iska ilaaliyo hadal iyo lagu iyo dad uu dhibaato u geystay waxaasna iska ilaaliyo متفق عalayhi وhada lفظ mسلم kan waa mslim lafdigiisi baa sidan ah ka kalena waa la macnayahay وqwlه ynhزhu وبفتح الyاء والhاء وبالزاي ynhزhu haadi iyadiba waa kor dhaban yihiin ra'na ma ahee waa ynhزhu ynhrهma ee يkرiجhu وينhضhu uuna soo bixinin oo oon soo kicinin وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيma يرويه عن ربه تبaaرaكa وتaعالى iبن عabاس baa نبga صلى الله عليه وaلي وسلم wuxuu ka wariyey wuxuu nebiguna صلى اه عليه وسلم rabbigiis عaزa وaجل uu ka warinaya kanoo kale marka waxaa la yidhaha xadيiث qudsiya baa la yidhaha nebiga عaليه الصلاaةu وaسلاaم xadiidkiisu kulligood horta waa wada waxyi ee wux isagu jeebkiisa ka kaansada ma jiro maca dalika labaa loo qaybiyaayo xadiid nabawiya iyo xadiid qudsiya loo qaybiyaa waxayna muxuu ahay sida uu nebiga alay slm u sheegayay bayna arrinta ku saabsan tahay mid kastaba se xagga macna waa ka waxyi marka kii uu nebiga alayh الsalaatu wasalaam nebiga alla toos uga wariyo oo allah sidaa yidhi uu yidhaahna xadiid qudsiya la yidhaaha kii uu nebiga alayh الsalaatu isagu uuna hadal ahaan isaga sheegana oo isagoo kollayba xagga macnaha waxyi ka waxa weeyaan waa xadiid nabawi ah xadiidka qudsigu marka lafdigiisa iyo macnihiisaba waa waxyi xadiidka nabawiga ana macnihiisa unbaa waxyi cibaaradana waxaa le rasuulka alayh الsalaatu wasalaam qaala allah wuxuu yidhi in allaha kataba alxasanaati wasayi'aati uma bayana dalika alla waa qoray xasanaadka iyo sayi-aadka xasanaadka yani cibaadaadka iyo sayi-aadka yani waxyaalaha macaasida aba alla waa qoray haddana waa caddeeyey oo kutubtii uu soo dejiyey iyo rasushii uu soo diray buu ku caddeeyo dadka waa u sheegay qoridii looxulmaxfuudka iyo lagu qoray un laguma daynina faman hama bisayi'atin falam yacmalhaa qofkii ku hamiya shay xasana ah oo shay cibaada inuu sameeyo ku hamiya hamiguna waa niyada ugu yar oo aan weli go-aan aan gaadhin weeyaan qalbigiisaba ay ku soo dhacdo inuu waxaa sameeyo aan haddana aan samaynin katabaha allahu tabaaraka wa tacaala cindahu alla tabaaraka wa tacaala wuxuu ku qoraa agtiisa xasanatan kaamila xasanad buuxda oo naaqisayn buu ku qoraa laakiin male laalaabki male xasana kaamila naqsisa male hal xasano oo taamia loo qoraya wain hama bisayi'atin hadduu ku hamiyo sayi-aduu ku hamiyana wain hama bihaa xasanadii hadduu ku hamiyo facamilaha uu sameeyana katabaha allahu alla wuxuu qoraa 10 xasanaatin 10 xasanuu qoraa ugu yaraan ilaa 700 ضicfin ilaa 700 oo laalaab ilaa adcaafin kaiira ilaa laalaabya badan oo kale oo intaa kasii badan oo tiradooda alla una ogyahay waa lagu qoray marka yani qofkii shaygii intuu niyeysta haddana sameeya oo niyadii ficilka isku dara waa loo laalaabayaa inta ka hore loo laalaabayana waxaa ugu yar 10 kaana inay kasii badato 700 gaadho 700 inay kasii badato waa suurowdaa waa qof iyo niyadiisa iyo sida uu niyadiisa u kala fiican yahay wain hama bisayi'atin hadduu shay dembiga ku hamiyo falam yacmalha aanu samayninna oo daraba uga tago weeya yani haddii u suurageli waydo maaha haddii u suurageli waydo laakiin isaga ay ka go-nayd waa kii xadiidkii aan kusoo marray muxuu aha xadiidkii abu bakra waa kaan kusoo marray isagu dembigiisa waalay laakiin haddii intuu uu hamiyo haddana dar alle isaga daayo weeyaan alle wuxuu ku qorayaa xasana kaamilu ku qoraya isagana marka looma laalaabay shay dembiya buu niyeystay qof inuu dilo maalan markaasuu fakeray inuu zinaysto inuu khamro cabo inuu laalush qaato inuu xoolo daddaco markaasuu fakero alla kaama dambe soo dhiman maysid isugu dhowaan iska daayo
kaas marka dar allowdu isaga daayay niyadaa daraaddeed alla xasano kaamila ugu qoraya. wain hama bihaa facamilaha sayi-adaa haddii intuu ku hamiya haddana uu sameeyo katabaha allahu sayi'atan waaxida hal sayi u alla ku qoraya. laguma laalaabayo xumaha alla waxay ka mid tahay karamkiisay ka mid tahay inuu camalka saalixana uu laalaabo ummaddantaday u khaastahay u laalaabo sayi-ada si aanu ku laalaabin. muttafaqun calayhi marka niyadii oo camal xataa la jirin baa halkaas dowrkaa yeelatay. وعn أbي cبدالرحمن cبدالله بن cمر بن الخطاب رضي الله عنهma qاala samictu رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم yquل rasuulka allaan maqlay isagoo oo leh انطلqa ثaلاثة نفر miman kana qablaكم waxaa baxay oo socdaal aaday 3 nin oo ummadihiidii ka horreeyay banu israa'iil ahaa. 3daa ninna waxay ahay sahan bay ahaayeenoo xoolo reerahoodii u sahminaya meel daaqle iyo ay ku raraan ayay u baxeen inu sahan tagaan xataa aawaahum ilaa uu ku hooyeyey almabiitu habeenbarigii ilaa qaarin god fadakhaluuhu way galeen. roobna waa qabtay, roob baa ku da-ay, gabalkiina waa u dhacay, marka meel huluul ahoo buur hoosteed ah ayay galeen. faاnxadarat waxaa soo wilaanwilatay sakratun dhagax weyn min aljabali buurta. dhagax weyn baa buurta ka soo dhacay. dhagaxaasuna sababku usoo dhacay wuxuu ahaa min khashyat illah, dhagxanta cabsada alla ka cabsada ayuu ahaayo kuu qur-aanka alla ku sheegay. buurtii baa dhagax weyne ka soo dhacay. fasadad calayhim waxay ku awday algaara godkii afkiisii isku magmaatay. markaasay khalaas meel ay ka baxaan male dadna ma oga cidlay keligood ahaayeen inay dhimanayaan halkan kada ayaa marka caddaatay. faqaaluu markaas is yidhaaheen qaarkood qaarkii kale ku yidhaaheen inahu laa yunjiikum min hadihi الsakra inahu xaalku wuxuu yahay laa yunjiikum inuuna idinka badbaadinaynin min hadihi الsakra dhagaxankada ilaa an tadcu llaha ilaa alla inaad ku baridaan mooyaane bisaalix acmaalikum camaladiina wanaagsanay. qof walooba inaad soo xusuusato camal saalix oo dar alla weligaa aad u samaysay oo aad alla ku barido aad tidhaho allow haddaan dartaa maalintaa waxa u sameeyey dhibkankada naga qaad inaad tidhaaha mooyaane wax kaloo ina badbaadinayaa ma jiro. tan oo kale marka waa nooc oo tawasulka ka mida. tawasulka isagu sharciga aan khilaafbaba ku jirin baa 3 nooc oo mid waxaa weeye qofku inuu camalkiisa saalixa alla ku baryo, iimaankiisa iyo taqwadiisa iyo cibaadadiisa iyo alla uu ku baryo. midna waxaa weye alla sifaadkiisa uu ku baryo, karamkiisa iyo deeqdiisa iyo qudradiisa uu ku baryo. midna waxaa qof saalix oo xaya ou ka ducaysto hebelow ii duce yidha waxaasaan haysta ii duce alla ay aqbal adin aamin aad ahday. 3daas iyadu khilaaf kuma jiro. marka camalkiina saalixa inaad alla ku baridaan mooyaane wax kale oo idin badbaadinayaayo ma jiro ee alla ku barya. qaala rajulu minhum sidii bay yeeleenoo nin ka midaa wuxuu yidhi allaahumma allow kaana lii abawaani shaykhaani kabiiraani waxaan lahaa 2 waalid oo waa yeel orda waaweyn. wa kuntu waxaanan ahaa laa uqbiqu ma aanan caana siin jirin qablahumaa iyaga hortood ahlan walaa maalan dad iyo dunyo toona. qabuuq waxaa la yidhaahaa caanaha habeenkii iyo galabtii iyo lacabaa qabuuq la yidhaahaa. marka kolkaan habeenkii cidda aan liso intaanan carruurna caana siinin xoolahana aan ilmihii kusii dayn maartay waxaana lisi jiray weeyaan. laa uqbiqu yani laa ucطiihim sharaab alqabuuq wahuwa sharaabu alleyl. fana'aa bi waxaa ila fogaado ila durkay maalin طalabu shajar yowman doonkii daaqsintii baa maalin ila fogaatay. xoolii baan meel fog daaqsin gooyey. falam urix calayhimaa ma aanan u soo xeraynin xoolihii xataa naamaa ilay ka seexdeen. faxalabtu lahumaa waxaan u lisay qabuuqahumaa caanahoodii habeennimaan u lisay. fawajadtuhumaa waxaan helay naa'imayn iyagoo hurdaa. kolkaan la soo galay ba iyagoo seexday arkay. fakarihtu waxaan necbaystay an uqidahumaa inaan toosiyo wa an uqbiqa qablahumaa iyaga hortood inaan caana siiyona waan necbaystay ahlan aw maalan dad ama dunyo. falabithu waan nagaaday waan taagnaa waalqadaxu calaa yadi isagoo haruubkiina gacantayda ku jiro gacanta ku hayo antadiru anigoo sugaya istiqaadahumaa soo toosidooda xataa baraqa alfajru ilaa uu ka iftiimay waagii. wasibyatu carruurtiina yatadaaqawna
ay ku ooyayaan cinda qadamaya lugtayda hoosteeda abcaanahana si ay leeyihin waa gaajaysanay carruurtayda hoos ooyayaan aniguna aan necbaysanayo ma aabbaha iyo hooyadaayo qatan baa qof kale wax dhadhansiinaysaa habeenkii oo dhan buu sidaa ula taagnaa madaxooda ula taagnaa fastayqadaa way soo tooseen fasharibaa way cabbeen qabuuqahumaa caanahoodii habeennimay aroortii cabbeen allaahumma allow in kuntu facaltu daalika haddaan sidaa u yeelay ibtiqaa'a wajhika wejigaaga talabkiisa haddaan saa u yeelay fafarij cannaa maa naxnu fiihi min hadihi sakra naga fayd waxaan aan ku jirray ee dhagaxankada ah fainfarajad way ka faydantay shay-an waxoogaa laa yastatiicuuna ayna karaynin alkhuruuja minhu ka bixid way kala jabtay wax yar baa ka fallidhmay qac yidhi sida riwaayada waxaa sheegtaa riwaayatu طabaraani fi kitaabi الducaa marka in yar baa marka ka jabtay oo iftiinka uga soo galay iyo laydii uga soo galay oo wax kala arkeeno qaala alآakharu kii kalena wuxuu yidhi allaahumma allow innahu xaalku wuxuu yahay kaanat lii waxaan lahaa ibnatu cammin gabadh in adeertay ah kaanat axabba annaasi ilaya dadka aan ugu jeclaa wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxay ahayd kuntu uxibuhaa waxaan u jeclaa ka ashaddi maa yuxibu الrijaalu الnisaa si ay rag naag u jeclaadaan ta ugu daran ugu adag baan u jeclaa faaradtuhaa can nafsihaa nafteedaan ka dalbaday inay iska makamisoo faaxishaan ku sameeyo ka zinaystaan ka dalbaday faamtanacad minii way isu kay diiday xataa alamad bihaa ilaahay kaga habsatay sanatun min asiniin abaaraha ka midi sana waxaa lagu sanadkana sano waa la yidhaha laakiin abaartana sana la yidhaha hadda sanada waxaa laga wadaa abaar ilaa abaar ku dhacday iyadoo guursatay oo carruurna leh fa ja'atnii waa ii timid iyada oo qaraabad sababteeda waxay iga doonaysaa fa acطaytuhaa waxaan siiyey 20 wa 100 diinaar 20 iyo 100 diinaar baan siiyey oo dahab ah calaa an tukhalliya waxaana ku siiya shart inay isku sii dayso u kala dhex baxdo bayni wa bayna nafsi aniga nafteeda noo kala dhex baxdo isku sii kaydaysa yani ayaan ku siiyey fafacalad way yeeshay hortii hore waa diiday oo dhaag cafiifadoo dhowrsan ba ahayd laakiin mudaray noqotay oo carruurtii inay gaajo uga dhimato markay ka baqday ninkeedina la soo tashatay bay marka goortii dambe yeeshay fafacalad way yeeshay xataa idaa qadartu calayhaa markay ay ii gacan gashay wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxay leedahay sida uu awooday ba tiraysaa falamaa qacadtu bayna rijlayhaa markaan labadeedii lugood kala dhex fadhiistay ee iilaajkii mooye wax kale aanu ii hadhin ee qaalad waxay tidhi ittaqi llah war alla ka baq walaa tafadal khaatama nigaxa ha ku furin ilaa bixaqi xaqiisa mooyaane yani weelkan kada khaatam waxaa la yidhaahaa waxa weelka marka sharaabka iyo wax lagu subo afka lagaga gaaro ee si aan usoo daadin kaasaa la yidhaahaa se ningax ay baadiha soomaalida ku nigaaxeen iyo bacdan ay alaabta la sameeya marka afka lagaga gaaro dhalooyinka iyo waxyaalahaas iyo marka haddana waxay ka wadaa khaatamkan ay sheegayso weelkeedaasay ka wada yani farjigeeday ka wada yani ha ku isticmaalin xaqla-aan nikaaxas xalaala waxaan ahayn ha ugu isticmaalin fainsaraftu canhaa waan ka gadoomo waan ka kacay wahiya axabu nnaasi ilaya waanadii buu qaatay oo meel xun bay ku wacdiday oo markaas maxaa weliba riwaaya kale waxay dhahaysaa waxaan arkay iyadoo jaraynaysa markaas maxaa ku dhacay maana ku dirqay so aduu khiyaarkaaga ma markaasay tidha hayo laakiin waa arrin aanan weligay samayninoo nafcii geynayso oo muxuu ahaaye saa daraaddeed baan la cabsanaya allaan ka cabsanaya markaasuu maada allaad ka cabsanaysa oo ana miyaanan alle abuurin miyaanan ba alle ka cabsanayn markaas ka boori sian taabanin wahiya axabu nnaas ilaya wataraktu dahaba aladii acطaytu dahabkii aan siiyeyna waan uga tegey allaahumma allow in kuntu facaltu dalika haddaan sidaa u yeelay ibtiqaa'a wajhig wejigaaga dalabkiisa fafruj cannaa maa naxnu fiihi min hadihi sakr naga fayd wax aan ku jiro naga fayd fainfarajat isakratu dhagaxii baa waxoogaa ka faydmay غayra annahum laa yastatiicuuna alkhuruuja minha intii hore in ka badan baa ka jabtay ka fallidhantay laakiin inay ka baxaan iyadana ma ayna karaynin wa qaala haaliثu kii saddexaad baa wuxuu yidhi allaahumma istaajartu ujaraa waxaan kiraystay shaqaale beeraley buu ahaayoo beer buu shaqaalaa gashaday dad shaqaalaa gashaday wa acطaytuhum ajrahum ujradooda siiyey ninba inbu
xadeeyo oo markaasu aduna inta fal aduna intaa fal aduna intaa fal nin walbabana suus oo bada ah riwaana duray tiraa riwaana beris bay tiraa aduu suus dacaam ah nin walbaba kula heshiyo aduguna intaa fal waxaad leedahay suuskaas aduna intaa fal ayb kolkii marka shaqadii la dhameeyey galabtii la kala raawaxayo nin walbaba kiisii uu siiyey nin baa marka isagu kiisii diiday acطaytuhum ajrahum ujradoodii baan siiyey غayra rajulin waaxidin nin keliya mooyaane taraka oo ka tegay alladii lahu wixii uu laha ka tegay oo wadahaba iska dhaqaaqay ninkaasuna wuxuu u tegey wuu xanaaqay oo wuxuu ka xanaaqay nin gadaal ka soo galay shaqadii ayaa loola ekaysiiyey markaasu ninkaan maxaad noogula ekaysanaysaa annagu maalin dhan maan shaqaynayna isagu hadduu yimida maxaad noogula ekaysanaysaa markaasuu wuxu uhi waa adigu waxaan kugula heshiiyey mina waxba kaa dhiga ma meeshan aniga maalkayga weeyaane qofka sidaan kula heshiiyey weeyaane ila farageli karta maba rabu waxaaga marka uu iska xanaaqay fatamartu ajrahu ujradiisii baan u midheeyey yani marka intuu beeray markuu go-ay xoole ku iibiyey oo beeray oo xoole ku iibiyey oo u rogrogay yuu maal badan uga dhaqay ayb fatamartu lahu ajrahu waxaan u badbadiyey oon u dhaqaaleeyey oon u midheeyey oon maal uga soo saaray ujradiisii xataa kahurad minhu alamwaalu ilaa maalkay ka bateen maalka ka yimin uu farabatay oo lo iyo geel iyo ari iyo addoominkii raacayay iyo bay noqdeen saasna macnaheedu waxa weeye wixii yare la hagaajiyaayo ee la farsamaysaa ee mxuahay la rogrogaayo maal buu noqonay suus baa wuxuu noqday maal fara badanaa noqday fajaءanii bacda xiinin muddo dabadeed buu ii yimid ninkii oo busaaradoobay oo wax kaloo qaaday waayey baa soo xusuusay war ninkii maalintii aad u shaqaysan unba suuskii kaaga dari maayo u doono faqaala markaasuu uhi yaa cabdallah addi ilaya ajri si ujradeydii maalintii aan kuu shaqeeyey faqultu markaas waana la kala raagay marka waa garan waaya hortii hore marka kolku isu tilmaamay ayuu gartay markaasuu war adaaban ku rabeeye kaala halkaa soo fuulo bal xoolahaasoo dhan bildhaaba faqultu markaasaan waxaan idhi kullu maa taraa min ajrika waxa aad arkaysa oo dhan ee geel iyo lo iyo ari iyo addoommahaas la joogaaba waa ujradaadii min alaybili geela walbaqari lo-da walghanami ariga waraqiiqa iyo addoommaha ah faqaala markaasuu yidhi yaa cabdallah laa tastahzini war haygu ciyaar waxaa u maleeyay inuu ku dheelay nin suus rabay oo la yidhi xoolahaasoo dhan ada iska leh wuxuu qaata markaan ku daacdaacsanaya ku taagsanayaa bisi faqultu laa astahzi'u bik uguma ciyaarayo hawaaga qab kolkuu ogaaday buu marka faأkhadahu kulahu dhammaantii buu qaatay faاstaaqahu waa kaxaystay falam yatruk minhu shay-an waxba ma aanu ka tegin allahuma in kuntu facaltu dalika ibtiغاءa wajhik faafruj cana maa naxnu fiihi faاnfarajat الskra dhagaxii baa ka faydmay intii ugu dambaysayna ka duulay fakharajuu yamshuun way baxeen iyagoo iska socdaanoo sheekaysanaya xoolahoodii ku noqdeen muttafaqun caleyh marka nimankaasu waxa alla uu ku anfacay camalkoodii saalixa ahaa ee laakiin dar alleh mid waliba ibtiqaa'a wejiga buu dhahaya yaa anfacay waxaana imaan doona xadiid arrintan oo kale ku saabsan baa imaan doona oo marka qofkii waqtu rakhaa cibaadada badiya ee alla xusuusiga badiyaayo waqtiga shiddada inuu isagana alla subxaanahu wa tacaala uu badbaadin doono waxaa kaloo halkan marka saddexdaa nin waliba camalkiisa saalixa ee ugu bariyey oo mid baarinimadiisii uu alle ku bariyey midna cifadiisii xaaraanta oo ka dhowrsaday u gacan gashay ayuu alle ku bariyey midna ixsaankiisii uu qofkaas u sameeyey qofkaas muslimka walaalkiisa u sameeyey ayuu muxuu ahaay isaguna ku helay marka waxaa kanoo kale waxaa la yidhaahaa tasaruf alfuduuli ayaa la yidhaahaayo haddaad aragto qof walaalka oo muslima ah xoolihiisii oo khasaarayo baaba isaguna aanu ka warhaynin waa inaad u baylac kartaa wuxuu soo gelayaa xadiidka aan soo marray ahaa uu khudbada ku bilowday ee ahaa allahu fii cawni اlcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiihi baabu tawba baabu tawba
tawba macnaheeda soo noqodka ayaa la yidhaaha. marka haddana sharciga kolka la joogo waxaa laga wadaa tawbada alla oo loo soo noqdo, dembiga laga soo noqdo, wixii qofkuu sameeyey inuu ka soo noqdo. qaala culamaa, culamadu waxay yidhaaheen atawbatu waajibatun min kulli demb. tawbada laga tooba keena laga soo noqdo dembi walbaba in laga tooba keena waa waajib. fain kaanat almacsiyatu bayna allahi bayna alcabdi wa bayna allah, haddii macsiyada si loo tooba keenaya marka ayaa kala duwan. haddii ay tahay waxaasu wax alle iyo addoonka uga dhexeeyo qof bani aadama aan taabanayno dhibaato aan u geysanin, laa tatacallaqu bixaqi aadamiyin, aan ku saabsanayn qof aadamiya xaqii, falaha ثalaaثa shuruud, 3 shardi bay leedahay. axaduha an yuqlica can اlmacصiya, waa inuu ka joogsado macsiyadii. astaqfir اllahna waa leeyahay waana sii wada, taas ma noqonayso, waa istihzaa oo kale noqonaysaa. alla waan kuu tooba keenay waana sii wadaa, xaraamtii ilaa ka tooba keena lahay weli waa cunaya, dagaaladii weli ka tooba keena waa ku jira waxay. aلثaanي an yandama calىa ficliha, waa inuu ka shallaayo maxaa kuu geystay is ilaaho, taasaan ruknigaasaan ugu sii weyn shallaytada. aلثالث an yacdima calى an laa yacuda ilayha abada, waa inaanu goosto inaanu dambama ugu noqonin. marka aad beri aad samaysidna isagoo le laakiin uu leeyahay waa ka tooba keenay, taasna ma anfacayso. fain fuqida axadu الثalaaثa, saddexdaa midkood haddii la waayo lam taصixa tawbatu, tawbadiisu ma asaxayso. wain kaanat almacsiyatu tatacallaqu biaadamiyin, hadday bani aadam ku saabsan tahayna fa shuruuطuhaa 4, shuruudeedu waa 4. haadihi 3 saddexdabtada iyo wa an yabra'a min xaqi saaxibihaa, inuu ka beri noqdo uu ka baxo qofkii xaqaas lahaa. su uga beri noqonaya marka uga baxayaa, wuxuu uga baxayaa fain kaanat maalan aw naxwahu, hadday maal iyo wax kale oo lamida ikhtisaas iyo waxaa sidaas ay tahay, raddahu ilayhi, isagu u celinaya. laakiin xoolihii uu ka soo dhacay uu haysto uu leeyahay marka iyo xalaale ma noqonayso. hadduu isagii dhintayna marka warasadiisi ayuu u celinaya. hadday warasadiisi iyo isagii midna aanu aqooninna waa sadaqaynayaa, isagoo niyeysan inuu isagii ka wakiil yahay, wuxuu u sadaqaynaya. wain kaanat xadda qadfin, hadday tahay wax macnawiya ay tahayna oo cayb iyo xan u xantay wax sidaas ay tahayna, wanaxwi waxa lamida oo xad leh, makanahu minhu isu dhiibayaan. aniya waxaasaan kugu idhahe waakan xad baad igu leedahay, igu ofs haddaad igu dhahayaan. aw طalaba cafwa, mise cafi gu dhahay, iska ka cafiniyo hadalkaasaan ku dhahay. wain kaanat giibatan, hadday xan tahayna istaxallahu minha, uu ka xalaalisanayaayo wuxuu dhahay iga cafiniyo waa ku xantay. marka inuu sheegana haddii muxuu ahaayey uu fidno ka baqaayo waxba yaanu sheegin. wa yajibu an yatuuba min jamiici dunuub, dembiyaalka o dhan inuu ka tooba keenaana marka waajib weeyaan. fain taaba min bacdihaa, hadduu qaarun ka tooba keeno, saxa toobatuhu cinda ahli اlxaqi min dalika اdembi. maxaa dadka muxuahayey bidcada qaarkood oo qaba iyagu dembi oo dhan in laga tooba keena ma asaxaysaba iyagu iska jireen. dadka ahluxaqisa iyagu waxay qabaan kaas horta tooba iskuma xidhna dunuubtu, taas isaga toobakeenkiisii waa asaxayaa. hadduu laalush qaadan jiray, khamrana cabi jiray, oo midkoodu ka tooba keeno, kaa toobadiisi waa aqbashay. ka kalena inuu ka tooba keenaa waajib ku ah, laakiin iskuma xidhna. wa baqiya calayhi اlbaaqi, kii kalaa ku hadhay. waqad tadaaharat waxay isu kaashatay dalaa'il اlkitaabi waالsunati waijmac اlumma calaa wujuubi tawba. muxuu ahayd adilada oo qur'aanka iyo sunnada iyo ummadda oo dhan siday isku raacday, toobadii inay waajib tahay ay isku raacday. qaala allahu tacaala watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun. dhammaantiin dadka mu'miniinta oo alla u tooba keeno, alla u soo noqda, waad liibaanaysaani. wa qaala tacaala istagfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi, isagoo nebiyadiisii ka mida ka sheekaynaya baa wuxuu uhi waxaan ku idhi istagfiruu rabbakum, rabbigiin dembi dhaaf weydiista, uma tuubuu ilayhi, haddana u soo noqda u tooba keena. wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allah tawbatan nasuuxa, dadkiina mu'miniinta oo alla u tooba keena tooba khaalis. toobada nasuuxa marka midda khaaliska ah weeyaan. can abi hurayrata radi allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali wslam yaquul, rasuulka allaan maqlay isaga oo leh wallahi inii la astagfiru اllaha waatuubu ilayhi fi اlyowm akara min 70 mara. allah ku dhaartay anuu
alle waan dembi dhaaf baan weydiistaa oo waan u tooba keenaa maalintiiba 70 goor in ka badan maalintiiba. hadduu rasuulka alle marka sala allahu alayh waali wasalam sidaa uu leeyahay marka kayrkay maxaa u malaynayna. markaas xadiidkankadu waxa weeye rawahu albukhaari waa xadiid saxiixa wuuna soo noqon doonaa 1870 lambarkaa buu kusoo noqon doonaa. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه صxaabigaasna waxaan ka warinay qaala inuu yihi qaala rasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم yaa أyuha الناas wardadiyahow tuubuu ilى الlah alla u tooba keeno واstغfiruuhu dembi dhaaf weydiista faإnii atuubu ilayhi faإnii atuubu anugu waan tooba keenaa fi اlyومi maalintii 100 mara 100 goor ah. rawahu muslim. wardadiyahow alla u tooba keena oo dembi dhaaf weydiista leanna aniguba waxaan u tooba keenaa alla maalintiiba 100 goor ayaan u tooba keenaa. muslim baana xadiidkan kada wariyey. marka xadiidkan kada xadiidkii ka horreeyey ayuu la macno yahay, laakiin tiradii uu kii hore ijmaaliyey ee uu yidhi 70 wax ka badan ayuu kanu koobay oo 100 goor inay tahay ayuu sheegay. marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ayuu mahal u noqonayaayo wuxuu leeyahay aniga idinku alla aqoon badnaa ee idinku taqoon badnaa ee idinka dembigaygiiba la dhaafay kii hore iyo kii dambaba maalintii waxaan alla u tooba keenaa 100 goor ee idinkoo marka waa igaga awlaysantihiin inaad wax ka badan ka tooba keentaan oo alla dembi dhaaf weydiistaan ay u daydo oo alla u tooba keena oo dembi dhaaf weydiista maalintiiba. xadiidkanna marka waxuu soo noqon doonaa mar danbuu soo noqon doonaa baab gadaasha yuu ku soo noqon doonaa 1869. xadiidkan xadiidkii ka horreeyey naftiisu waa soo noqon doonaa meesha meel ku dhow xadiidkaas lambarka ku xidhiiro kusoo noqon doonaa 1870. وعن أbي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه خاadم رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم. أbو حمزة waa kunyada أنس بن مالك رضي الله عنه mana ah wiil uu dhalo xمزة la dhihi jiray in loogu magac daray nooع khudaar ka mid ahoo xمزة la yidhaaho oo jeclaan jiray ayuu nebiga عaليه الصلاaةu وaسلام isagoo kolkolinaya iyuu ugu magac darayo أbا حمزة ayuu dhihi jiray. udunaynna waa dhihi jiray. qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi وalih waslm lallahu afraxu bitawbati cabdihi lallahu allaa afraxu kaga farax badan bitawbati cabdihi addoonkiisa towbakeenkiisa min axadikum midkiin buu ka farax badan yahay saqطa oo ka duldhacay yani helay calىa baciirihi awrkiisii waqad adallahu isagoo lumiyeyna horta hore uu ka lumay fii ardin falaatin dhul qafra ah. xoolihiisii oo meel cidlaa isagoo jooga ka lumay oo uu helay siduu ugu farxo si ka daran ayuu alla ugu farxaa addoonkiisii oo lunsanaan jiray oo usoo noqday usoo tooba keenay. xadiidkana waa muttafaq calayhi, laakiin riwaayada soo socota yaa faahfaahinaysa inay qisadu weliba qiso dhacday ay ahayd oo nin xoolihiisii intay ka lumeen oo noloshii uu ka quustay oo goortii dambe marka helay aad iyo aad u farxay kaasuu masal ka dhigayaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam. waxyaaluhu ummaddiisa wax ku beri jiray ayaa waxaa ka mid ah mawaaqifta sidaas oo kale ah marka ay dhacdo dhacdooyinka inuu cilmi uga bixin jiray. markaasuu fii riwaayati limuslim lallahu ashaddu faraxan alla ka daran xagga faraxa uga daran oo ka farax badan bitowbati cabdihi addoonkiisa towbadiisa uu ku farxo xiina yatuubu ilayhi midkuu usoo noqday u tooba keeno min axadikum midkiin ayuu ka farax badan yahay axadkaasoo kaana calaa raaxilatihi ashiisa saaraa. neefka gaadiidka ee la rarto ee la koraa raaxilo la yidhaahaa, geel oo dhan lama wada yidhaahee. biardin falaatin dhul lama degaan ahoo qafra ah oo musaafir ahaayoo hashiisii saaraa faاnfalatat minhu ay ka baxsatay wa calayhaa طacaamuhu wa sharaabuhu ay dusheedana saarantu ay ku raran tahay cuntadiisii iyo cabitaankiisiiba. hadduu labadaa waayana meel hayjo ohon dad iyo dunya toona aanay joogin oo biyo lahayn oo baad lahayn oo meel saxaroo lama degaa buu joogaayo waa
waa uu dhimanaya faayisa minha oo ka quustay faataa shajaratan geed hoostii yimid fadajaca fii dillahaa seexday harhkeedii waqad aysa min raaxilati hashiisiina ka quustay oo is yidhi kolleyba waad dhimanaysaa geedka harkiisa unaad ku dhimantiid intaa qoraxda meermeerkeeda ku dhiman lahayde halkan iskaga naso halkan kale geridaada ku sug fa baynamaa huwa kadalika mar uu sidaa ahaa oo iska hurday id huwa waxaa ku soo kadiyey biha hashi ayaa ku soo kadisay qaa'imatan cindahu iyadoo ag taagan indhahu kala qaaday buu arkay iyadiio dul taagan fa akhada wuxuu qabsaday bikhitaamihaa faruur xidhkeedii buu qabsaday xargeedii buu qabsaday markaasuu fadhiisiyey oo uu koray uma qaala markaasuu wuxuu yidhi min shiddati alfarax farxad daraantiisi farxi ka badbatay buu isagoo wuxuu ku hadlayba aan isgaranayn buu wuxuu yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuka allow adiguna addoonkaygii baa tahay ana rabbigaa baan ahay wuxuu rabay inuu yidhaaho allow adiguna rabbigay baa tahay aniguna addoonkaagii baan ahay oo alle uu ugu shukriyo nicmadaas uu soo celiyay buu rabay laakiin farxi baa intu ka badbatay boon isgaranaynino markaasuu kelimadaa kelimatu kufrigaba ah ku hadlay laakiin rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo cudur daarayaa wuxuu leeyahay akhطa'a min shiddati alfarax wuu gafay oo farxi ka badbatay daraaddii ayuu ninkaasu la gafay ninkaasu marka oo xaaladdaa ku jiro oo ay ka dhigan tahay noloshii uu ka quustay oo u soo noqotay sidaa uu u farxay ee farxii intuu ka badbatay wuxuu leeyahay ba aan isgaranaynin siduu u farxay si ka badan ayuu alla ugu farxaa addoonkiisa oo lunsanaa oo usoo noqdo usoo tooba keenay marka alla subxaanahu wa tacaala waxaa ka mida sifaadkiisa kariimada ah sifatu lfarax farax iyo qadab waa laba sifo oo isu did ah marka alla subxaanahu wa tacaala labadaba waa leeyahay laakiin teenna oo kale ma ah bani aadamka farxiisuna waa si allatiisuna mid weyd alla sifaadkiisa marka ma garanayno laakiin oo kayfiyadooda ma garanayno laakiin waa inaan u qiraa siduu u sheegtay isagu ama rasuulkiisu calayhi isalaatu wasalaam uu sheegay waxaa kaloo xadiidka aan ka qaadanayna qofka wixii uu ku gafo xataa hadduu wax gaalnimo keenaya uu yahay oo qasad aan ka ahayn inuu macduur ku yahay macduur weeyaano alla subxaanahu wa tacala ninkaas waa gaaloobay lama dhahayo farxaddii ka badbadatay baana wuxuu ku hadlaayaba isgaranay وعن أbي موسى عبد الله بن qays الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل alla sareeye wuxuu soo fidiyaa gacantiisuu soo fidiyaa habeenkii liyatuuba inuu tooba keeno oo allana uu ka aqbalo daraaddeed buu usoo fidiyaa musii'u النahaar kii maalintii xumo sameeyey ee dembaabay وayabsuطu yadahu bالنahaar gacantiisuu maalintiina soo fidiyaa liyatuuba musii'u leyl kii habeenkii dembaabayay inuu toobo keeno oo isna uu ka aqbalo xataa tatluca ashamsu min maqribihaa ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo meeshay ka dhacday oo ay tahay waqtigii albaabka toobada la xidhaayay ee tooba dambe aan la aqbalaynin ee alla subxaanahu wa tacaala uu sheegay in waqtigaas toobadii la xidhay nabiguna alayh isalaatu wasalaam uu cadeeyey xadiidka soo socda uu ku sheegay ilaa toobada baabkeedii la xidho oo waqtigii qiyaamuhu uu soo dhowaaday la gaadho oo calaamadaa weyn inta la arko dadku ay wada toobo keenayaan laakiin aan laga aqbalaynin albaabka toobadu waa furan yahay oo alla subxaanahu wa tacaala waqti kastaba toobo waa aqbala marka hadda halkanna xadiidkanna wuxuu ka mid yahay xadiidu sifaat buu ka mid yahay oo wuxuu sheegay xadiidkan kadu alla subxaanahu wa tacaala yad buu sheegay alla subxaanahu wa tacaala gacan buu marka leeyahay gacanteena oo kale aan ahayn laba gacmood oo labadoo midig ay yihiin ayuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala laakiin ma aha xubin sida jidhkeenna oo kale gacantu ay xubin inaga mida ay u tahay lugtu xubin inaga mida ay u tahay wejigu xubin inaga mida uu yahay ishu xubin jidhkeenna kamida uu yahay sidaas ma aha marka isaga waxaa weeyaan siduu ku fasiray abulxasan alashcari radia allahu canhu waa sifaadkiisa kariimada ka mid ah oon lana inkiraynin lana takyiifinaynin oo alla subxaana wa tacaala yadiisu sidaasay tahay aan la odhan karaynin isaga unbaa og marka isagaa loo daynayaa kayfiyadeeda isagaa yaqaanaya rasuulkiisa calayhi isalaatu wasalaam laakiin wax alla wixii sifaha alla uu sheegtaba waa in loo qiraayo oo alla subxaanahu wa tacaala loo rumeeyaa وعن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وآله وسلم
man taaba qabla an taطluca الshamsu min maqribiha taaba allahu calayhi rawaahu muslim. qofka toobo keena intayna qoraxdu ka soo bixin meeshay ka dhacday intii ku horaysa qofkii toobo keenaa alla subxaanahu wa tacaala waa ka tooba aqbalaa. waqtigaas wixii ka dambeeyase tooba lama aqbalayo. waqti kaleoo isagana aan tooba la aqbalaynin ayaa jira oo xadiidkan kada soo socdaayo uu caddayn doono. xadiidkana muslim baa wariyey. وعn أbي cبدالرحمن cبداللahi بن cمر بن الخطاب رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم qاal إن الlaha عزa وجل يqبل توبة العبد ma lm يغرغr. alla subxaanahu wa tacaala wuxuu u aqbalaa addoonkiisa toobadiisa inta aanu qarqarlaynin, yani xaalatulqarqara oo naftu marka ay halkan kada xabadka ku noqonayso qarraclaynaysa ou nolol ka quusto wixii ka horeeyaba alla waa aqbalaa. marka waa waqtigii labaad een sheegayna en isagana toobada la aqbalaynin weeyaano waa xaalatulyaas, markuu qofku nolol ka quusto oo nolol dambe kuuma harin uu is yidhaahe uu sii dhimanayo, waqtigaana toobadii lagama aqbalo. xaalatulmucaayana weeyaanoo waqtigaa waa la tusinaya, xaaladiisaa la tusinaya, xaqiiqadii buu arkayaa. xaqiiqadii awal hore inkiri jiray kolkaa uu arko lama aqbalayo, tooba lagama aqbalayo, laakiin waxaa laga rabaa qayb inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam khabarkiisa intuu qaato uu qayb alla ku rumeeyo, alla uu ku caabudo ayaa laga rabaa. marka toobadu labadaa waqti wixii aan ahayn oo dhanba alla waa aqbalaa subxaanahu wa tacaala. waxayna ugu fiican tahay toobadu inta uu qofku isleeyahay waad caafimaad qabtaayoo waad da-yar tahayoo weli muddaad sii noolaanaysa isaga uu naftiisa ugu sheekaynayso, taasaa ugu fiican. oo odayaasha toobadooda iyo dhalinyarada toobakeenkooda dhallinyaratooda ka fiican. rawaahu التirmidiyu wa qaala xadiiثun xasan. tirmidi ayaa xadiidkan kada wariyay. tirmidina magaciisa waxaa la yidhaha abu ciisa moxamed ibn ciisa bni sawra ayaa la yidhaha radia allahu tacaala canhu. kitaabkiisana jaamicu tirmidi ayaa la yidhaha ama sunan tirmidi. wuxuuna yidhi xadiidkuna waa xadiid xasan ah, waana sidaa uu sheegay oo xadiidku xasan weeyaan. sheekh اlalbani waa uu ku waafaqay, xasan buu ka dhigay. waxaas kaloo xadiidkan kada isaguna wariyey ibn maajah ayaa isaguna wariyey, sunankiisa ku wariyey. sheekh اlalbanina waa xasan buu xadiidkan ka dhigay oo صaxiix sunan tirmidi iyo صaxiix sunan ibn maajah iyo mishkaat اlmasaabix intaba xasan buu kaga dhigay. وعan zir bni xubayshin qaala, ninka zir bni xubaysh la yidhaaho waa nin taabiciya. qaala ataytu safwan bna casaalin radia allahu canhu, waxaan u imid saxaabigaa la yidhaahaa safwan ibni casaal almuraadi radia allahu canhu ayaan u imid, as'aluhu anigoo ka waraysanaya can ilmasxi cala alkufayn, masixitaanka kufaynka la masaxo marka la weyse qaato halkii lugaha laga dhaqi lahaa qofkaas ku jira wax alla wixii qadamka ku jira oo dhan baba kufaynka yani laga wadaayo masixitaankooda anigoo ka waraysanaya inay jirto iyo in kale. ilaan qur-aanka alla kuma sheegin, qur-aanku dhaqinteedu sheegay. marka inay taasu marka sharci tahay in kale anigoo raba inaan weydiiyo ayaan u imid. faqaala markaasu wuxuu yidhi maa jaaءa bika yaa ziru, maxaa ku keenay ziriyow? faqultu markaasaan waxaa idhi ibtigaa'u lcilmi, cilmi dalabkii baa i keenay. markaas ninkaas la yidhaaho saxaabiga la yidhaha safwan ibna casaal, ninkanu markuu u yimid buu marka wuxuu dareemay inuu dan ka leeyahay, marka dantiina inuu ka haybaysanayo oo aanu kula dhacaynin buu arkay. markaasu isagoo ku bilaabay si uu marka ninkan u furfurto oo cabsidii iyo waxaas haybadii ay uga baahdo oo dantiisa uu sheegto. markaasuu wuxuu ku yidhi maxaa ku keenay? markaasuu yidhi cilmi baa i keenay, cilmi baan kaa dalbayaa. faqaala markaasuu wuxuu yidhi safwan radia allahu canhu isagoo u bishaaraynaya ninkaas oo inuu muxuu ahaa camal wanaagsan uu ku jiro oo cilmi dalabka uu wax wanaagsan uu yahay, xadiid ku soo arooray isagoo u sheegayo wuxuu yidhi ina almalaa'ikata tadacu ajnixataha liطaalib اlcilm ridan bima yatlub. malaa'igtu baalasheeday hoos ugu dhigtaa ninka طaalibulcilmiga ah raalli ahaansho ay raalli ka tahay, maqsuud ka tahay cilmiga uu dalbayo daraaddi bay u salaamtahay oo taxiye ahaan iyo baalasheeda hoos ugu dhigtaa. yani waa arrin wanaagsan baad ku jirtaa weeyaan. xataa malaa'igtaad soo martaa ayaa ku salaamaysay oo baalasheeda hoos ugu dhigaysay.
faqultu markaasaa waxaan idhi isagoo masaladii marka uu ka rabay sheeganaya buu wuxuu yidhi inahu qad xaka fii sadri اlmasxu calى اlkufayni bacda algaa'iti wاlbowl inahu xaalku wuxuu yahay qad xaka inuu ku dhex wareegaystay fii sadri xabadkayga almasxu calى alkufayn masixidda kufaynka la masaxo bacda algaa'iti wاlbowl saxrada iyo kaadida dabadood yacni kolkii qofka wayseqaadka uu ka jabay wayse qaadanayo inaanu lugta dhaqaynin ama kufaynka uunu dusha ka masaxayo ayaa iga degi weyday oo xabadkayga ku warwareegaysanaysa wa kunta imra'an min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam waxaanad ahayd qof asxaabtii nebiga ka mid aad ahayd salى اllahu عalayhi waalihi wasalam faji'tu waxaan u imid as'aluka inaan ku su'aalo hal samictahu ma maqashay rasuulka salى اllahu عalayhi waalihi wasalam yadkuru fii dalika shay-an arrintaasa wax ka sheegaya maan ka maqashay qaala markaasuu wuxuu yihi safaan radia allahu canhu nacam haa waan maqlay markaasuu qisadii uu ku maqlay iyuu marka soo bilaabay oo kayfiyadii uu ku maqlay iyo qisadii buu sheego markaasuu wuxuu yidhi kaana yaamurunaa wuxuuna fari jiray idaa kunnaa safran markaan nahay safar aan nahay oo musaafiriin buu yidhi waana isku mid kolkaan musaafiriin nahay buu yidhi mise wuxuu yidhi kolkaan safar nahay iyo wuxuuna fari jiray anlaa nanzica inaanaan siibin khifaafanaa khufafyaalkayaga inaanaan siibin halaaثata ayaamin walayaaliyahunna 3 beri iyo habeenadoodii inaanaan siibin ilaa min janaabatin janaaba un mooyaane ina qubays rabna mooye kolkii qubays la rabo isaga waa la siibayaa oo lugta waa la dhaqayaa laakiin kolkii wayseqaad la rabo muddadaana lagu dhex jiro shardiga soo socdana la helo waa inaan muxuu ahay waxba inaan la bixinin laakin min gaa'iطin wa bawlin wa nawmin laakiin aanan ka siibin saxra iyo kaadi iyo hurdo toona marka xadiidku wuxuu tusinayaa saddexdanba inay nawaaqidulwudu ka mid yihiin saxrada iyo kaadida iyo hurdada mid waliba inuu yahay wayseqaadka uu jabinayo oo laga wayse qaadanayo laakiin marka laga wayse qaadanayo qofkii lugta wax ugu jiraayo shuruudeedii haddii uu helo waxba inuu bixiyo ma shuruudeedii haddii uu helo waxba inuu bixiyo ma ahee dushaan buu ka masaxayaa faqultu markaasaa waxaa ihi kolka taas mas'aladaas waa u baxday mas'alo kaleu marka haddana ku darsanaya hal samictahu yadkuru fi lhawaa shay-an ma maqashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo wax ka sheegaya jacaylka hawada waxaa laga wadaa hawaa marka la yidhaaha la gaabiyo hawaa madan ayna ahayn hamse siile waxa weeyaan jacaylkaa la yidhaahaa marka qofku jacaylka uu qof kale jeclaado oo dar alla uu u jeclaado wax ma ka maqashay ku saabsan ayuu leeyahay qaala markaasuu wuxuu yihi safaan radia allahu canhu nacam haayo waan maqlay kunnaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalama fii safar rasuulka alle ayaan la jiro socdaal dhexdii aan kula jiray fabaynaa naxnu cindahu mar aan anagu agtiisa joognay id naadaahu waxaa u dhawaaqay si kada iyo lama filaana ugu dhawaaqay acraabiyu nin reer baadiye ah bisawtin lahu codkiisa buu ugu dhawaaqay oo jahwariyin oo dheer cod dheer buu ugu dhawaaqay oo iska leeyihiin hadal dhaadheerka iyo hadal waaweynka reer baadiye oo iska leeyihiin ah yaa muxamed muxamedow buu yidhi yaa rasuul allah iyo ma aanu dhihin oo qofka marka iska jaahil oo dabcigiisu iskaga soconaya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa kariimada ah bay ka mid ahayd dadka sidaas oo kale ee qallafsan iyo inaan waxba aanu arrintooda ka soo qaadin oo u dulqaato faajaabahu rasuulu llahi sala allahu alayh waali slam rasuulka alla u jawaabay naxwan min sawtihi codkiisii oo kale ayuu ugu jawaabay sidii isagu u dhawaaqayba isaguna uu dhawaaqay haa hooy buu yidhi isaguna markaasu sidii isagu u hadlay buu isaguna ula hadlaaya faqultu lahu waxaan ku idhi ninkii reebaadihaa baan ku idhi wayxaka war hoog uqdud min sawtika codkaaga wax hoos u dhig fainaka cinda الnabiyi salى اllahu alayh wali slam nebigii alle agtiisaad joogtahay geelaagii iyo baadiyahaagii lama joogtid waqad nuhiita can haada arrinkaana waa lagaa reeba alla waa kaa nahiyay inaad nebiga alayh salatu slam agtiisa aada codka kooda u qaadee codka hoos ugu dhig aayaddii buu sheegaya alla subxaanaه wa tacaala uu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti الnabiy wla تجهruu lahu bاlqwl kajahri bacضiكm لbعض an تxbطa acmaalكm وantum laa tashcuruun
aayadahaasu tilmaamaya wuxuu leeyahy marka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam inaad ka adab qaadato oo markaad agtiisa joogto kolkii kale aad caadiga ahayd si aad u dhadhawaaqi jirta aadan u dhawaaqina codka hoos ugu dhigtaa lagu faraye hoos codkaaga u dhig faqaala markaasuu uri wallahi laa aqdub wallahi inaan waxba hoos u dhigaynin ana codkayga waxba hoos u dhigi maayo cadigaygaan isaga hadlaaya isaguna marka kama ayna ahayn diidda uu amarka alla diida iyo kama ayna ahayne waa waran uu ka warramayo dabcigiisa iyo inuu ka warramaayo ayay ahayd qaala alacraabiyu ninkii reebaadiha baa marka wuxuu yidhi almar-u yuxibu alqowma walamaa yalxaq bihim nin baa jecel rag jecel aanan gaari karinna rag saalixiin ah oo camal aanu ku gaari karaynin yuu iska jecel yahay taasu say noqonaysaa wax ma u taraysaa taasu qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam markaasuu nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi almar-u maca man axaba ywma alqiyaama qofku wuxuu la jirayaa maalinta qiyaamaha ah dadkii uu jecel yahay waa alla waa gaadhsiinayaayo hadduu ka camal yaraa kole ku tahay jacaylka uu jecel yahay sababtiisa yaa darajadooda lagu siinayaa famaa zaala yuxadidunaa ma aanu ka zuulin inuu noo sheekeeyo xataa dakara ilaa uu ka sheegay baaban min almaqrib albaab oo gabalu dhaca ku yaala qofkaas leh maa zaala yuxadidunaa leh waxaa suurowda inuu yahay zir bnu xubaysh oo qofka uu ka warramayay ee sheekaynaya ilaa uu mas'aladaas qiyaamaha ku saabsan oo albaabkaa towbada ah iyo xidhitaankiisa uu ka sheegay uu yahay safwaan ibnu casaal radia allahu canhu waa suurowdaa inuu qofka famaa zaala lihi uu safwaan yahay oo qofka sheekaynaya oo ka xikaayoonayaana rasuulka uu yahay sala allahu alayh waali wasalam iyaduna waa suurowdaa kama zuulin inuu noo sheekeeyo ilaa uu ka sheegay albaab oo gabalu dhaca ku yaala masiiratu cardihi ballarkiisa inta la soconayaa uu yahay aw yasiiru araakibu fii cardihi mise wuxuu yidhi qofka raakibka ahee musaafirka ahe awrka fuushan baa wuxuu soconaya ama faraska fuushan baa wuxuu soconayaa fii cardihi ballarkiisa hoos soconayaa 40 aw 70 caaman 40 sannadood buu yidhi mise wuxuu yidhi 70 sannadood albaab weyn oo qof faras fuushani inta uu socon kari lahaa ballarkiisa socon lahaa ayuu ka warramay qaala sufyaan axad ruwaa sufyaanka xadiidkan kada ragga wariye ka mida baa wuxuu yidhi isaga wuxuu yidhi kuwa kale intay halkay ka yidhaaheen qibala min almaqrib uu ka yidhi isaga wuxuu yidhi qibala shaami dhanka shaam ah albaab xagga shaam ah shaamna marka qofkii madiine jooga waxay ka xigtaa xagga gabalu dhacay ka xigtaa marka macnihi waa isku mid cibaaradan baa kala gedisan khalaqahu allahu tacaala yowma khalaqa asamaawaati waalard alla uu abuuray albaabkaana maalintuu cirkiiyo dhulka abuuray maftuuxan litawba isagoo u furan towbada u furan oo towbada ay ka gelayso oo towbada laga aqbalayo laa yuglaqu aan la xidhaynin xataa tadluca shamsu minhu ilaa qoraxdu isaga ka soo baxdo albaabka ay ka soo baxdo markay kolka qoraxdu ka soo baxdo ay dadka arkaan iyo kulligood wada tooba keenayaano war wixii la sheegayay baa run ah war wixii diinta sheegaysay baa run ah war xadiidkii nabiga laga warinaya run buu ahaa war qiyaamihii baa dhow masaajidda la isku guraya laa ilaha illa allah oo la tooba keenaya lamana aqbalayo rawaahu tirmidiyu wagayruhu abu ciisa tirmidi iyo kayrkii ayaa xadiidkan kadana wariyey wa qaala wuxuuna yidhi xadiidun xasanun صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidkan kada وعn abi سacيidi سعد بن مالك بن سنان الخdري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كاana في man kana qبلكم waxaa ka mid ahaa dadkii idinka horeeyey rajul nin qatla 99 نفسا oo dilay 99 qof fasأla dadkii buu waraystay inuu toobo keenuu rabaa marka qalbigiisiiba alla tooba iyo hidaaya kusoo rido 99 qof markuu dilay yuu wuxuu yidhi waad ka tooba keentay laakiin in toobada laga aqbalayo dembiga intaa leeg isagoo galayan kale baanu kala garanaynin dadkii buu waraysto war dadka dhulkan joogayaa uga cilmi badan buu yidhi fasa'ala can aclami ahli اlardi dhulka dadka jooga qofka ugu cilmi badan buu weydiiyey fadulla calaa raahibin waxaa la tusiyey nin baadiri ah
nin baadari oo iska cibaadaysta oo cilmi aan lahayn laakiin dadku inuu cilmi leeyahay u malaynayaan ayaa la tusiye waxa la sheekh hebel ayaa ugu cilmi badan faataahu waa u yimid faqaala wuxuu yidhi innahu qatala 99 nafsa isagu wuxuu dilay said sheegaye 99 nafood buu dilay fahal lahu min tawba maleeyahay tawba 99 qof baan dilay tawba ma layga aqbalaya faqaala laa maya buud waanu ku gafsanaayo dee cilmi baanu lahayn dadka noocaas oo kaleana waa lagu dartaayo dadka iska ahlu taacaha ah waxaa la moodaya inay cilmi leeyihiin salaaxooda iyo taqwadooda iyo cibaadadooda iyo marka la arko ee sida loo xurmaynayo ayaa la moodaya inay cilmi leeyihiin warkaasaa lagu dartaayo cilmi la weydiiya kuwaasoo kale marka cilmi in la weydiiyo ma aha waa in laga ducaysto faqatalahu waa dilay waa ku xanaaqayo markaasuu isagiina dilay fakamala bihi 100 boqol buu ku buuxiyey uma sa'ala haddana qof alla khayr la damcay buu ahaaye waa fadhiisan weyday naftiisiiyo weli inuu toobo keeno ayuu rabaayo markaasuu dadkii waraystay an aclami ahli اlard dhulka dadka jooga kee ugu cilmi badan fadulla calىa rajulin caalim waxaa la tusiyey nin caalima baa la tusiyey caalim runa xaqiiqiya baa hadda la tusiyey faqaala markaasuu wuxuu yidhi innahu qatala 100 nafs isagu wuxuu dilay 100 qof buu dilay fahal lahu min tawba ma leeyahay tawba faqaala nacam haa buri tawba waa leeyahay waman yaxuulu baynahu wa bayna atawba yaa kala celin kara isagiyo tawba tawba yaa ka hor joogsan kara tawba waa kuu furan tahay inطaliq ilaa ardi kada wa kada meel heblaaye ah dhulkaaga ha ku noqonin aada intaasoo dembiga ku gashay ka haajir oo meel heblaaye ah marka tanuna waxaa weeye toobada min ardi alfisqi walfasaad laga haajiro weeyaan toobada ma aha waxaan ujeeda hijrada in laga haajiro beledka gaalada keliya ma ahe beledkii fisqi iyo fujuur iyo macsiyo ay ku badato oo macsiyada wax dadka ka reebayaaba aanu jirin oo wax khayrka ugu caawinaya aanu jirinna waa inuu ka haajiro oo ka fogaado weliba qofka dembiga galay alaabtii iyo meelihii iyo dadkii uu dembigaas la sameeyey iyo waxyaalahaas iyo waa inuu ka fogaado si aan u xusuusaninba oo wixii o dhan uu gooyo mar labaad aan ugu soo noqonin fa ina bihaa iyada waxaa jooga dhulka aan kuu tilmaamayo naasan yacbuduuna allaha tacaala dad alla caabuda baa halkaa jooga oo wanaagsan facbud illaaha macahum alla la caabud walaa tarjic ilaa ardika dhulkaaga ha ku noqonin fa inahaa ardu suu dhul xun weeyaan intaasoo dambe dhulkaa ku gashay dhul xun weeyaan ha ku noqonina meeshaasaa dad saalixiina joogaayo aad faاnطalaqa waa baxay meesha iyada ahayd buu aaday xataa idaa nasafa طariiqa markuu jidkii kala baray bartanka uu joogo ataahu lmowt yaa geeridii u timid faاkhtasamat fiihi waxaa ku dooday malaa'ikaة الraxmati wa malaa'ikaة اlcadaab malaa'igtii raxmadda iyo malaa'igtii cadaabka yaa ku dooday oo mid waliba inay iyadu nafta ka qaato ayay rabtaa faqaalat malaa'ikaة الraxma malaa'igtii raxmaddaa waxay tidhi jaaءa taa'iban muqbila biqalbihi ilى اllahi tacaala wuxuu yimid isagoo toobo keenay oo qalbigiisii xagga alle ula soo jeedsaday oo dambi macsiyadii hore iyo ka soo noqday ayuu yimid marka annaga ku xaqlaho waa ahlu janna oo annagaa naftiisa qaadayna wa qaalat malaa'ikaة اlcadaab malaa'igtii cadaabkuna waxay tidhi inahu lam yacmal khayran qatu isagu weligii khayr ma aanu samaynin waa ahlu naar marka waa ninkii dambiilahay weligii intaasoo dhan samaynayay toobo keena laakiin khayr kale ma leh faataahum waxaa u yimid oo alla usoo diray malakun fii suurati aadamiy malag alla uu soo diray oo bani aadam suuradiisu soo yeelay yaa u yimid fajacaluuhu waxay yeeleen baynahum dhexdooday yeeleen xakaman xaakim bay ka dhigteen xakam baa la yidhaha kaasoo kale oo qof aan isagu xaakim aan ahayn laakiin lagu raali noqdoo la yidhaaha nakala xukun kaas weeyaan marka xukunkiisuna waa fulaya nakala xukun bay yidhi waxaan aan isku haysanaay faqaala markaasuu malagii wuxuu yidhi qiisuu maa bayna alardayni qiyaasa inta labada dhul u dhaxaysa fa ilaa ayatihimaa kaana adnaa midooda uu noqdo kii u dhow fa huwa lahu midaasuu leeyahay
dhulkan dhulkuu ka yimid iyo meeshantada qiyaasa meeshuu ku socday iyo meeshanna qiyaasa midoodii marka hadba uu u dhowaado taasaad dadkeeda ku daraysaan dhulkii uu ku socday saalixadeeda hadduu xaggeeda u dhow yahayna waa alla waa aqbalay oo marka waxaa weeye ahlu janno weeyaanoo malaa'igta raxmadda idinkaa leh haddii ti u ka yimid uu u dhow yahayna weli toobadiisii sax ma ayna noqonin oo muxuu aha weli ahlu naar weeyaanoo malaa'igta cadaabka idinkaa ku saasuu marka ku kala xukumay malagii alla u soo diray wuxuu yidhi halkan uu joogo ka bilaaba oo u qiyaasa dhanka iyo dhankaba u qiyaasa hadba midii uu u dhow yahay halkeeda haleeshiiye taasuu xukunkeeda leeyahay faqaasuu way qiyaaseen waa mitiriyeen fawajaduuhu waxay heleen adnaa isagoo u dhow ila alardi alatii araad dhulkii uu rabay xaggiisa isagoo waxay u dhow yay arkeen faqabadatu waxaa nafta ka qaaday malaa'ikatu raxma malaa'ikatedii naxariista yaa nafta ka qaaday marka wuxuu noqday ahlu jannuu noqday muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin fi saxiix riwaayo oo saxiixaynka ku jirtana iyaduna waxay ahayd oo kale fakaana ila alqaryati asaalixati aqraba bishibrin wuxuu noqday dhulkii wanaagsanaa qaryadii saalixadayda uu hijroonaya xaggeeda yuu kii u dhow noqday hal taako xaggeeda u dhowaa siduu ugu dhowaadayna len horta hore waxaan soo sheegnay inuu nisfu ariiq marayay jidka bartankiisu marayaan marka haddana waxaa la leeyahay wuxuu u dhowaa dhulkii u socday saalixadayd xaggeediibuu wax yar oo taakaa u dhowaa sidii ugu dhowaadayna laba arrimood laba riwaaya ku jirto waa imaanayaan fa jucila min ahlihaa dadkeedii qaryada saalixada dadkeedii baa lagu daray oo ahlujannu noqday wa fii riwaayatin fi saxiix riwaaya kaloo iyaduna saxiixaynka ku jirtana waxay ahayd oo caddaynaysa sidii u soo dhowaaday fa awxa allahu tacaala alla wuxuu u waxyooday yani wuxuu amray ilaa haadihi midartada waa midii uu ka yimide an tabaacadii fogow durb wa ilaa haadihi tanna wuxuu amray waa miduu xaggeeda u socdaye an taqarabi soo durub marka sidaas ugu dhowaaday midantada xaggeeda ugu dhowaaday laakiin kolkii hore nus ku maraayay wa qaala wuxuuna yidhi qiisuu maa baynahumaa inta u dhaxaysa qiyaasa fawajaduuhu waxay heleen ilaa haadihi middan xaggeeda aqraba isagoo u dhow bishibrin taako fagufira lahu markaasa loo dambi dhaafay wa fii riwaayatin riwaaya kale iyaduna caddaynaysa sabab kale caddaynaysana waxay ku sugnaa fana'aa wuu u sikaday bisadrihi xabadkiisa naxwaa xaggeeda isagoo sakaraadaya isagoo sakaraadaya buu wax yar xaggan kada u sikaday marka sababku ugu dhowaaday taasay ka dhigtay riwaayadana riwaayada horena waxay ka dhigtay amaru allah labada dhul amar uu siiyey marka waxaa suuroobi karaysa inay labaduba dhaceen oo isaguna waxoogaa uu yar sikaday allana subxaanahu wa tacaala uu amray dhulkii inay xaggan kada tana soo durugto tana sii durugto ninka marka sidaas a lagu aqbalay marka sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan alla subxaanahu wa tacaala dembi kasta oo laga tooba keenaba toobadiisa alla waa aqbalaa wa can cabdillaahi bni kacb bni malikin radia allahu canhuma wa kaana cabdullaahi wuxuu ahaa qaa'ida kacb bni malik radia allahu canhu ninka hogaamiya gacanta qabta buu ahaa min benihi wiilashiisa dhexdooda xiina camiya markuu indhabeelay markuu kacb intuu daa weynaaday indhabeelay yuu wiilkiisaas cabdullaahi ee wiilasha ugu baarisanaayo isagu ka gacanta qabtay ee masjidka geeyey ee musqusha geliyey ee u weyseeyey ee buu ahaan jiray marka xadiidka kada dheer ayuu ka warinayaa qaala cabdullaahi baa wuxuu yihi samictu kacba bna malik radia allahu canhu kacb bna malik baan maqlay uu xadiid isagoo ka sheekaynaya bixadiidihi warkiisii iyo qisadiisii xiina takhallafa markii uu ka hadhay can rasuuli llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam fii gaswati tabuuk dagaalkii tabuuk ee rasuulka alayh isalaatu wasalaam uu aaday saddexdii nin ee ka hadhay alla qur-aanka uu ku sheegay wacala halaaثati aladiina khulifuu layidhi midkood buu ahaa marka kahadhidda uu ka hadhay isagoo ka sheekaynaya ayaan maqlay buu qaala kacb wuxuu yihi radia allahu canhu lam atakhallaf can rasuuli llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam ma aanan ka hadhin rasuulka alla sala allahu alayhi waalihi wasalam fii gaswatin gazaaha qatu duulaan uu duulay ma aanan ka hadhin weligay ilaa fii gaswati tabuuk gaswatu tabuuktan mooyaane hayra annii qad takhallaftu laakiin waxaan ka hadhay
can غazwati badrina waa ka haray iyadana ma aana raacin walam yucaatab lamana canaananin axadun takhallafa canhu qof غazwatu badrigaa ka hadhayna waxba lama canaananin inamaa kharaja rasuulu llahi salى اllahu alيyه wali slm rasuulka alla wuxuu u baxay wاlmuslimuun iyo muslimiintu yuriiduuna iyagoo raba ciira qurayshin safarka quraysheed safar quraysheed oo shaam aaday oo ka soo noqday inay jidka us joogsadaan oo qabsadaan ayay rabeen mooyaane dagaal ma ayna ku talagelin laakiin marka nabigu alay slam dadka waa khiyaar geliyey oo wuxuu yihi qof alla qofkii diyaar ahee gaadiidkiisa uu diyaar yahayna raacayaayo ha soo baxo qofkii kalena marka waxba lama canaananin oo waxba laguma waajibinin laakiin tantadi waa ka duwanaydo dadka oo dhan ba waxaa la faray inay soo baxaan xataa jamaca allahu tacaala ilaa alla uu kulmiyey baynahum wa bayna caduwihim calaa gayri miicaad iyaga iyo cadowgooda ilah uu ka kulmiyey ku ballan la-aan walaqad shahidtu maca rasuuli llahi sala alla alay slm rasuulka allana waxaan kala qayb galay laylata alcaqaba habeenkii caqabada jamrat lcaqaba agteeda habeenkii muxuu ahaayey baycada ay la geli jireen ee rasuulka alayh isalaatu wasalaam ay kula mubaayacoon jireen inuu usoo hijroodo taasaan ka qayb galay oo taasaa ii gelaysa ka hadhitaanka iyo gazwatu badr aan ka hadhay xiina tawaafaqnaa markii aan ku heshiinay cala alislaami islaamnimada iyo hijrada wamaa uxibu mana jecli ana lii biha yani badalaha laylat lcaqaba bedelkeeda inaan lahaan lahaa mashhada badrin bedri ka qaybgelkiisa ismelihi way ka liidataa laylat lcaqaba bedri bay ka liidataa allow yaa kuugu bedela ismelihi wain kaanat badrun haba ahaato badri adkarati kaga sheegid badan fi nnaasi dadka dhexdooda minhaa laylat lcaqaba ah walow dadku gazwatu badri ay fadaaisheeda aada u sheegaan oo iyada agtooda mashhuur aada ugu noqotay anugu ismelihi inay ka liidato oo yaa kugu dooraya ismelihi wa kaana min khabarii sheekadayda waxaa ka mid ahaa xiina takhallaftu can rasuuli llahi sala allau alay slam fi gazwati tabuk markii aan ka hadhay rasuulka alla sal ly slm dagaalkii tabuk annii lam akun anigu inaanan ahayn qatu weligay fima madaa min cumri yani aqwaa kii ka xoog badan walaa aysara kii ka hodansan midna ma aanan ahayn minii xiina takhallaftu canhu fi tilka algazwa duulaanka isaga aan ka hadhay waqti aan ka xoog badnaa iyo waqti aan ka maal badnaa midna ma ayna jirin wax cudura ma aanu lahayn wuuna qiranayaa radia allahu canhu wallahi ma jamactu qablaha raaxilatayni qatu xataa jamactuhumaa fi tilka algazwa weligay isma aanan keenin laba halaad oo karmoon oo gaadiida ma aanan isu keenin ilaa aan waqtigaa isaga aan isla helay hadda ka hor laba halaad oo gaadiida islama helin laakiin gazwigaas aan isla helay walam yakun rasuulu llahi sala allahu alayh wali slm rasuulka allana ma aanu ahayn yuriidu gazwatan duulaankii raba maanu ahaan jirin ilaa wara wuxuu ku tawriyeysan jiray oo ku afqabsan jiray bigayrihaa meel kale kolkuu meel inuu aado rabo meel kale ku afqabsan jiray wuxuu dhehi jiray meel heblaaya jidkeedii iyo biyaheedii iyo yaa yaqaana daaqeedii iyo yaa yaqaana si uu uga qariyo jawaasiista cadowga sirtiisa uga qariyo saasoo caadadiisu ahaan jiray laakiin gaswankada isaga ah wuu khilaafay caadadaas oo sababka uu caddayn doono kacbi caddayn doono daraadii buu khilaafay xataa kaanat tilka algazwa ilaa gaswadaas iyadii ay ka dhacday fagazaaha rasuulu llahi sala lla alay slm rasuulka alla wuu duulay fii xarin shadiid kulayl daran wastaqbala safaran baciida wuxuu ka hortegayay safar dheer wa mafhaazan iyo dhullama degaan oo qafra ah aada u fog ilaa madiina waxay ka fog tahaan u malaynaya 700 oo kilomitr iyobay ka fog tahay wastaqbala cadadan kahiira wuxuuna ka hortegayay tiro fara badan yani cadow fara badan ayuu ka hortegayay markays iyada sababkaas u khilaafay oo iyada uu dadku ugu caddeeyey fajallaa waa u muujiyo diirku uga qaaday lilmuslimiina amrahum muslimiinta amarkoodii waa u caddeeyey tabuug baan aadaynaa hala soo baxa buu yidhi liyata'ahabuu inay isdiyaariyaan uhbata gazwihim duulaankoodaas isaga ah isdiyaarintiisa inay isu diyaariyaan oo ku talagalaan oo sahaydoodii iyo gaadiidkoodii iyo ay ogaadaan meel fog in la aadayo oo hubkoodii waxba ayna la hadhin oo cadow xoog badan laga hortagaayo faأخbarahum biwajhihim اladii yuriidu jihadooysa uu rabo buu uga warramay wاlmuslimuuna maca rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waalihi waslama kahiir muslimiinta rasuulka alla la jirtayna waa badnaayeenoo jeyshka ugu badnaa buu ahaayo 30,000 ayuu ahaa walaa yajmacuhum kitaabun xaafid
mana aanu dadka ururinaynin kitaab dadka oo dhan lagu koobo oo lagu qoro oo diiwaani ma ayna jirin yuriidu bidalika diiwaan buu ka rabaa kitaabka xaafidka uu leeyahay diiwaan buu leeyahay yani kalama diiwaan gelin jirinoo lama xaadirin jirinoo marka lama tabi jirin qaala kacbu wuxuu yihi faqalla rajulun nin baa yaraa yuriidu oo raba an yatagayaba inuu dhuunto oo haro ilaa danna wuxuuse u malaynayay ana dalika sayakfaa bihi in arrintaas u qarsoomayso oon la tabaynin maa lam yanzil fiihi waxyu min allah haddii aanu xag alle waxay kaga soo degin marka hor haddaan dadka aan la qoraynin dadkuna ay aad fara badan yihiin qof waliba oo raba inuu haraabo wuxuu isdhihi jiray lagu tabi maayo lagu arkina ilaa inuu waxay kugu soo dega mooyaane wagazaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama tilka algazwa rasuulka allana duulaanka isagaa waa duulay xiina taabat ihimaaru markay midhihii bislaadeen wadilaalu harkii ay macaanaadeen fa ana ilayha ascar yani amyal iyadan xaggeeda anuu u leexanayay oo naftaydu inaan iska joogay jeclaysanaysay fatajahaza rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam waalmuslimuuna macahu rasuulka alla waa isqalqaaliyo waa isqabanqaabiyo waa isdiyaariyey muslimiintii la jirayba oo sahidoodii iyo gaadiidkoodii iyo hubkoodii iyo bay qofba wuxuu heli karay ku talagalay watafiqtu waxaan gudagalay aqdu inaan soo jarmaado oo aroortii guriga aan ka soo baxo likay atajahaza macahu inaan isdiyaariyo aniguna daraaddeed niyada aan kusoo baxo fa arjicu waan soo noqonay galatii aan guriga kusoo noqonayay walam aqdisha anaan waxba qabanin waxba iima qabsamin yaan kusoo noqonay meel alla wax ka wada bay ahayd wa aquulu fii nafsi waxaanan isdhahaayey ana qaadirun calaa dalika idaa aradtu waan karaa anigu inaan isdiyaariyo oo waxaanu hal daqiiqaan isku diyaarin kara waxba iima dhimana sahidaydii iyo gaadiidkaygii wax waliba ay diyaar saasaan isdhahay wuu isku haleynayay awooddiisu isku haleynayay falam yazal yatamaadaa bi ma aanu arrinkaasu ka zuulin inuu ila sii socdo igu sii dheeraado xataa istamara binnaasi ljiddu ilaa dadkii uu ku dheeraaday dadaalkoodii muddo ay ku qaateen oo waxooda ay dhammaysteen fa asbaxa rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka alla wuxuu noqday uu waa beriistay qaadiyankii jarmaadaya maantuu rasuulka alla baxayaa bay noqotay wاlmuslimuuna macahu iyo muslimiintii la jirtayba walam aqdi min jihaazii shay-an anigu oon alaabtaydii iyo isqabanqaabintaydiina waxba aan ka qabanin uma gadawtu haddana waan soo baxay aroortaa u baxaya nabiga alay slam baan gurigii ka soo baxay farajactu walam aqdi shay-an waan soo noqday anigoo waxba qabsanin falam yazal yatamaadaa bi ma aanu arrinkii ka zuulin inuu isii fogaado ila sii durko xataa asracuu ilaa ay ka dhaqsadeen oy ka baxeen watafaarata uu durkay oo fogaaday algazw yani ahlulgazw dadkii duulayay ay fogaadeen oo ka go-een madiinadii fahamamtu waxaan ku hamiyey an artaxila inaan rarto fa udrikahum aan dhexda ku gaadho fayaa laytanii facaltu alla maxaan u yeeli waayey waa tamaniyaya laakiin wax khayra tamanigii weeyaano tamaniga sidaas oo kale khayr la tamaniya khayr ka tagay qofku uu tamaniyaayo isagu waa wanaagsan yahay mooyaane ma xuma uma lam yuqadar lii dalika arrintaa alla iima qadarin waxaase ii fiicnaan lahayd inaan sidaa yeelo oon dhexda ku gaadho fatafiqtu waxaan bilaabay idaa kharajtu fi nnaas dadka kusoo dhex baxo bacda khuruuji rasuuli llahi sal l sl marka rasuulka alle intuu baxay dabadeed markaan intaan ka soo baxo gurigaan ka soo baxo dadka soo dhex galo yaan yuxsinunii waxaa i murjin jiray annii laa araa inaanan arkaynin lii uswatan qof aan ku daydo anina waa kan hebel ba iska jooge waxba maxaa keligaa mahid aan isidhaaho baanan arkaynin ilaa rajulan maqmuusan calayhi fi nnifaaq ilaa qof lagu tuhmaayo munaafiqnimo lagu tuhmaayo mooyaane aw rajulan miman cadara allahu tacaala min adducafaa ama nin alla intuu u cudur daaray ee ducafada indhoolayaasha iyo kamida mooyaane qof kale oon ku daydo oon idhaaho kuwan waa kuwa jooga maanan arkayn walkaasaan murugoonayay waxaad ku soo dhexdhay munaafiqiintii iyo dadkii masaakiinta ducafada alla cudur daaray baad ku soo dhexdhay taasaa qalbiga murgelinaysay walam yadkurnii rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam xataa balaga tabuk rasuulka allana ima tabin ilaa tabuk laga gaadho faqaala markaasu wuxuu yidhi wahuwa jaalisun fi lqowmi bitabuk isagoo dadkii dhex fadhiya tabukna la jooga buu wuxuu yidhi maa facala kacbu bnu malik kacbu bnu malik muxuu sameeyey may nala socdaa mise waa inaga haray faqaala rajulu min bani salima
nin oo qabiilada banu salim ee ansaareed ka dhashay baa wuxuu yihi waa qabiiladu kacbina ka dhashay. kacb ibni maligan iyo mucaad ibni jabalka u jawaabi dooni iyo muxuu abu qataada iyo jaabir ibni cabdillaahi isku qabiila ahayn qabiiladooda banu salima la dhihi jiray laantoodana waa hoosdhintay banu salama ma baa wuxuu yidhi marka yaa rasuula allah xabasahu burdaahu waxaa reebay ninkaa labadiisii macawisood dadka cusbaa u iibsaday baxragadoodii iyo daadaawashadoodii buu ka bixilayahay waannadaru fii cidfayhi iyo fiirfiirin labada hareerood uu iska fiirinaya dharkiisa kolkuu xidho isku fiirinayo xaragigiisa yuu ka bixi waayo taasaa reebtay buu yidhi faqaala lahu mucaad ibnu jabalin radia allahu canhu mucaad ibnu jabal baa ku yidhi bi'sa maa qulta xumaa waxaad dhahday niyo hadalkaagu xumaa maxaad hadalkaa u dhahaysaa kaasoo kalena marka waa difaac qofka mu'minka ah cirdigiisa la daafaco waa ka xadiidkiisu insha allah waa iman doonaa qofka walaalkii cirdigiisa daafacay isagana alla naarta ka daafici doono qofkii maqla marka qof muslim oo la xamanayo oo si xun loo hadalhayo kaasaa la gudboon inuu ka celiyo oo yidhaaho been baad sheegaysaani ka dhaaf ninkaas sidaas aad sheegaysaan maya wallahi ya rasuula allahi maa calimnaa calayhi ilaa khayran anagu waxaan khayra ninkaa kuma ogin sababkee khayba ma ogin lakin ninka khayr baa anagu ku ognahay fasakata rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka alla waa iska aamusay fabaynaa huwa calaa dalika markuu sidaa ku jiray rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam ra'aa wuxuu arkay rajulan mubyadan nin oo dharcad xidhan nin dharcad xidhan ayuu arkay oo soo socda ka dambeeyey yazuulu bihi uu la socdo asaraabu dhalanteedka saraab waxaa la yidhaahaa meesha saxraah ee lama degaankaa markay qoraxdu kululaato wax hirhir ahoo biyo la moodayo ayaa la yidhaahaa marka dhulkan xijaaz iyo jaziira carabtana waa ku badan yahay arrinkaas marka nin aada mooddo inuu biyo dhex dabaalanayo oo saraabkii iyo isagii isla dhaqdhaqaaqayaanoo soo daba socda oo ka haray hortii hore ayay arkeen faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi kun abaa khaytama abuu khaytama noqon ninkaa soo socdow faidaa huwa abu khaytamata alansaari waxaa caddaatay inuu yahay abu khaytama alansaari wa huwa aladii tasadaqa bisaaci tamri abu khaytamahaasna wuxuu ahaa kii suuska timirta a sadaqaystay xiina lamazahu lmunaafiquun markii ay dureen munaafiqiintii ay dureen ee qisadiisana suuratu tooba alla uu ku sheegay aladiina yalmizuuna almuطawiciina min almu'miniina fi sadaqaati wاladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum aladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum taasu isagu ka mid ahaayo waxay yidhaaheen kan muxuu suuskiisa alle uga baahan yahay bay yidhaheen oo markay ku tacniyeen waxaan alle muxuu ku felayaa ninkaas uu ahaa qaala marka ninkii isaga ahaa buu noqday oo hortii hore hadhay laakiin isdaba qabtay oo arrintii hortii hore uu tamaniyayay kacbi oo maxaan u yeeli waay uu lahaa isaguu yeelay oo ka soo daba yimid oo meeshii kolkii la tegay dabadeed marka dadkii soo gaadhay dhexdaan ku soo gaadhin qaala kacbun kacbi baa wuxuu yidhi falamaa balaganii markuu isoo gaadhay anna rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulka alla qad tawajaha inuu soo noqday qaafilan yacni raajican qufuulka waxaa la yidhaha soo noqodka safar iyo qaswi iyo xaji iyo wax lamida laga soo noqdo ayaa qufuul la yidhaha qaafilan marka yani raajican inuu soo jeedsaday isagoo soo noqonaya min tabuuk xadaranii waxaa igu soo degay bafii murugtayda murug baa igu timid maxaad kala hortegaysaa rasuulka alla sala alla alay slam fatafiqtu waxaan gudagalay atadakaru lkadiba inaan beenta xusuusto waxaan ku cudur daaran lahaa iska urursado wa aquulu waxaanan dhahayay bima akhruju min sakatihi sala allahu alay slm maxaan kaga bixi doonaa caradiisa gadan berri wa astaciinu calaa dalika arrintaana waxaan u kaashan jiray bikulli dii ra'yin min ahli qof ra'yi laho ciddayda oo dhanba qaraabadayda oo dhan tila taliyaan dhihi jiro maxaan ugu cudur daartaa rasuulka sala allahu alay slam been buu marka isku hagaagaajistay shayطaan baa marka hortii hore u suureeyey inuu rasuulka alla sala lla alay slm haduu been ugu cudur daarto u ducaynayo oo laga aqbalayo khalaas ay noqonayso laakiin alla cismadiisa goortii dambe alla uu ka ilaaliyay arrintaasu run buu iska sheegan doonaa runtaasaana anfici doonta kuwii beenta sheegayna ee beenta ku cudur daartayna waa isagana dhibaatada ku dhacday waa iman doonaa oo goor dambe alla ku mahadin doonaa inuu runtii iska sheegay falamaa qiila markii la yidhi ina rasuula allahi sala allahu alay slm rasuulka alla qad adalla waa ina soo hareeyey qaadiman isagoo imaanaya berruu imanaya ama maantu imanaya markay ay noqotay yazaaxa canii uu iga zuulay albaatilu beenbaanti beenbaanti aan isku hagaajistay waa iga zuushay
xataa caraftu ilaa aan ka gartay annii lam anju minhu bishayءin abadan inaanan kaga nabadgelin waxba inaanan kaga nabadgelin waxaasoo dhan wax iga nabadgelinaya inu waa rasuulka allo oo waxyi baa kusoo degayo beentaada alla waa caddaynayo beena ku nabadgelin mayso ilaa aan ka gartay ba beenta iga suushay fa ajmactu waxaan goostay sidqahu run u sheegidiisa runta iska sheeg baan is faasbaxa rasuulu llahi sala allahu alay waslam qaadima rasuulka alla waa waabarisay isagoo maanta imaanaya wa kaana wuxuuna ahaa caadadiisa ka mid ahay idaa qadima min safarin markuu safar ka yimaado bada'a bilmasjidi masjidkuu ku bilaabi jiray farakaca fiihi ragcatayni 2 ragcadood buu ku tukan jiray uma jalasa linnaasi masjidka dadku u fadhiisan jiray masjidka oo dadka soo salaamaya yuu masjidka ku qaabili jiray xafiis iyo ma aanu lahayn iyo daar iyo wax sidaas iyo ma aanu lahayn marka kolkuu yimaado safar ka yimaado horta masjidkuu salaamayey masjidkuu geli jiray 2 ragcadood ku tukan jiray halkaasuu dadkana ku qaabili jiray markay marka dadkii soo salaamayay muqaabaladoodu dhammaato kolkaasuu aadi jiray guriga faatima haddana aadi jiray oo soo salaami jiray halkiisa ugu jeclaa markaasuu haddana guryihiisii u aadi jiray marka waa sunno mahjuura sunnadantada sunno laga tegay weeyaane qofka safar ka yimaada waxaa sunno u wanaagsan inuu masjidka xaafadiisa ah uu ku bilaabo horta intaanu gurigiisa gelin uu masjidka uu tago oo haddii uu furan yahay uu 2 ragcadood ku tukado oo dadka asxaabtiisa iyo halkaa uu ku salaamo markaas dabadeed uu gurigiisa aado falamaa facala dalika markuu sidaa yeelay ee masjidkii intuu ku tukaday uu fadhiistay jaa-ahu yahay waxa u yimid almukhallafuuna kuwii hadhay ayaa u yimid yactadiruuna ilayhi iyagoo u cudur daaranaya wayaxlifuuna lahu u dhaaranaya beenbeen ugu dhaaranaya wa kaanuu waxayna ahaayeen 80 rajulan 80 nin bay ahaayeen faqabila minhum calaaniyatahum daahirkoodii buu ka aqbalay wa baayacahum waa la mubaayacooday wastakfara lahum waa u duceeyo allaha idiin dambi dhaafuu yidhi wa wakala saraa'irahum baatinkoodiina wuxuu u daayey ila allahi tacala alla u daayey laakiin daahirkoodaasuu ka aqbalay kuwaas hore marka munaafiqiin bay ahayn beenadayaal ah xataa ji'tu ilaa aan anigu ka imid ilaa aanu ka imid bu sidaas markay ku socda hadba qofkii u yimaado beenta ugu dhaarta uu dhaha jir allah kuu dambi dhaafo hor iska socdo hadda kadib un markaa ka hedhin dagaal iyo balla kaga qaaday falamaa sallamtu markaan salaamay buu tabasama muusooday tabasama almuqdabi qof cadhaysan muusoodki qof cadhaysan su u muusoodo ayuu u muusooday yani marka wejigiisa cadhay laga garanayo oo inaanay farax ka ahayn iyo soo dhaweyn uu soo dhaweynaye canaan iyo cadho ay ka tahay isagoo ay wejigiisa ka muuqato yuu muusooday marka tabasumka waxaa weeyaan waa qosolka aan codka lahayn ee ilkaha un la caddeeya baa tabasum la yidhaahaa taasuna had iyo goor marka inkastoo qosolku u badan yahay in qofku waxa ka keenayo uu yahay farax iyo maqsuudnimo uu yahay haddana kolalka qaarkood ee cadha keentaa sida kan kadaba hadda u leeyahy nin shaacirina wuxuu yidhi idaa ra'ayta nuyuuba laysi baadiyatan falaa tadunanna ana laysa yabtasimu libaaxa miciyihiisa oo muuqda haddaad aragtaa u malaynin libaaxu inuu qoslaayo marka macnihiisu waxa way qof kastoo muusoonayaba inuu qosol caadiya uu yahay ha u malaynin qaraa-in lagu garta baa jira marka qosol cara ka muuqata buu qoslay uma qaala markaasu wuxuu yidhi tacaala kaalay faji'tu waan imid amshi anigoo socda xataa jalastu ilaa aan ka fadhiistay bayna yaday hortiisa faqaala lii markaasuu yihi maa khallafaka maxaa ku reebay alam takun qad ibtacta dahrak soo ma aadan ahay inaad gaadiidkaaga iibsatay dahriga waxaa laga wadaa gaadiidka laga wadaa soo hal geel ma aadan iibsanin gaadiid oo gaadiid la-aan mayna ku haynin maxaa ku reebay qaala kacbi baa wuxuu yihi qultu waxaan ya rasuula allah inii wallah low jalastu haddaan fadhiisan lahaa cinda gayrika min ahli dunya qof aan adiga ahayn oo ahlu dunye ah oo madax kale boqor iyo amiir iyo haddaan hortiisa fadhiisan lahaa la ra'aytu waan garan lahaa annii saأkhruju min sakatihi bicudrin inaan cadhadiisa cudur kaga baxayo oo cudurdaar aanu igaga raali noqdo inaan u sheegayo waan garan lahaa laqad ucطiitu jadalan dood ba alla siiyey dood waan aqana waa dood aqana nin shaacira buu ahaayo fasiixa marka waxaan ku cudur daarta waan garan lahaa walaakinii wallahi adigusa rasuulka allaan ayaa tahay oo waxaan kugu cudur daartahay badbaadin maayo walaakinii wallahi laqad calimtu waxaan ogaaday lain xadadtuka alyawma haddaan maanta kuu warramo xadiida kadibin war been ah tardaa bihi cannii
aad igaga raali noqonayso layuushikana allahu alla inuu la soo degdegayo dhaqso u keenayo an yusqitaka calaya inuu iga kacraysiiyo intuu beentayda kuu kashfiyo oo waxay kuu soo dejiyo been buu ninkaas kuu sheegay tira ood ii cadhoonayso baan ogahay wain xadadtuka xadiida sidqin haddaan kuu warramo war oo run ah tajidu calaya fiihi yani taqdabu calaya fiihi aad iigu xanaaqayso inii la arjuu fiihi waxaan rajaynaya cuqba allahi caza wajal caaqiba alle oo wanaagsan inay khayr ka dambaynayo baan rajaynaya runta haddaan kuu sheego od ii cadhooto inay runtaas khayr ku dambayso baan rajaynaya wallahi ma kana lii min cudrin wallahi inaana wax cudura lahayn wallahi ma kuntu qatu weligay ma aanan ahayn aqwaa kii ka xoog badan walaa aysara kii ka maal badan minii xiina takhallaftu canka markan aan ka hadhay mar aan ka awood badnaa iyo mar aan ka maal badnaa iyo ka caafimaad badnaa midna ma jirin qaala kacbi baa wuxuu yihi faqaala rasuulu llahi sala lla alay slm rasuulka allah wuxuu yidhi amaa haadaa faqad sadaq kanise run buu sheegay yani kuwii hore iyagu waxbay ku cudur daardaarteen run mayna sheegaynin kanuse isagu run buu sheegay faqum kac xataa yaqdiya allahu fiika ilaa arrintaada allah u ka xukumo hor tag wa saara waxaa soo socday saara oo siin ah iyo saara oo sa'a labadaba laba nusqadoodba waa jiraan marka saara marka la yidhaahna waa socdeen weeyaan saara haddii la yidhaahna waa soo kaakiceen weeyaan rag qaraabadiisa oo qabiiladiisi banu salima ah yaa ka soo dabakacay oo canaananaya wa saara rijaalu min bani salima niman banu salima ah baa ila soo socday faatabacuunii waa isoo raaceen faqaaluu lii waxay yidhaaheen wallahi maa calimnaaka adnabta danban qabla haada wallahi ma ogin inaad dembi maanta ka horreeya inaad dambaatid maanta dembi xun baad samaysay laqad cajazta waxaad kari weyday fi an laa takuuna inaadan noqonin ictadarta ilaa rasuuli llahi sala la sl rsulka alle inaad u cudur daarto bima ictadara bihi lmukhallafuun kuwii ka hadhayba waxay u cudur daarteen waxaad kari weyday nimankii kale waxay ku cudur daarteen oo kale inaad ku cudur daarteenoo rasuulka alla sala allahu alay wasalam markaas uu kuu duceeyo dembi allah ku dembi dhaafadaasaaba kugu filaan lahayd dembigaad maanta gashay oo kale weligaa ma adagelin qaraabadood iyagu oo qofka khayr iyo wanaag la raba ee lugooyaan kolalka qaarkood marka inuu dembi ku dhaco oo sidii munaafiqiinta oo kale uu yeelo ayay ku guubaabinayaan faqad kaana kaafiika waxaa kugu filaan lahaa dembaka dembigaaga kaagaga filaan lahaa istikfaaru rasuuli llahi sala allau alay slam laka rasuulka alla dembi dhaafkiisa uu yidha allah ku dembi dhaaf iska kac ku yidhaha baa kugu filaan lahaa oo beentaa sheegtay iyo wax walbaba kaa baabi'in lahaa kumana filaadeen oo rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam siwan xaqiiqada oweyn hadduu u dembi dhaaf alla u weydiiyo alla uma dembi dhaafeen sida kuwii kaleba alla aan ugu dembi dhaafin ee alla u canaantay qaala kacbi wuxuu yidhi wallahi maa zaaluu yu'annibuunanii ma ayna ka zuulin inay canaantaan xataa aradtu ilaa aan ka doonay an arjica ilaa rasuuli llahi sala alla alay slam rasuulka alla ku noqdo fa ukadiba nafsi naftayda aan beeniyo yaa rasuul allah wixii aan kuu sheegay beentay bu ahaye cudurka iyo cudurkaasaan lahaa uma qultu lahu markaasaan waxaan ku idhi hal laqiya haadaa macii min axad arrinkan kadaa qof kale aniga oo kale ma la kulmay oo sidaasoo kale hadalkaasoo kale qof ka hadlay ma jira qaaluu markaasay u dhaheen nacam haa laqiyahu macaka waxaa la jirkaaga la kulmo yani arrinta kugula jira rajulaani laba nin qaala mila maa qulta sidii aad tirahoo kale yidhihoo runta sheegay wa qiila lahumaa mila maa qiila laka laguna yidhi wixii adiga lagu yidhi oo kale kac ilaa arrintaada alla ka xukuma lagu yidhi qaala kacbaa wuxuu uhi qultu man humaa waa kuwee qaaluu waxay yidhaaheen muraarat bnu rabiic alcamri wa hilaal ibnu umaya alwaaqifi waa labadaa nin baa sidaada oo kale yeelay sidaadoo kalena loogu jawaabay qaala kacbi wuxuu ihi fadakaruu lii waxay ii sheegeen rajulayni saalixayni laba nin oo saalixiin ah qad shahidaa badran badri ka qayb galay fiihimaa uswatun oo lagu dayan karo niman lagu dayan karo haddii hebel iyo hebelba sidaa la yidhi oo sida isku arrin aad tihiin alla ilaah khalaas niman aad ku dayan karto waa yihiin waxba ku noqonin aad isdhaho labadaa nin midkood ayaa culamaa siira qaarkood ay khilaaf geliyeen oo yidhaaheen bedri ma aanu ka qayb gelin lakin xadiidkan kada ka saxiixan kutubu siira xadiidkooda qaala famadaytu waan socday xiina dakaruuhumaa lii markay ii sheegeen waraanu socdo maana soo noqonin wanahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alla wuu ka reebay dadka can kalaaminaa la hadalka yaga ina lala hadluu dadkii ka reebay
ayuha halaaثatu saddexdaasaan ka wadaaye saddexdayadaasaan sheegaya kaasa waa kaan lahayn xagga naxwaha ikhtisaas baa lagu yidhaahaayo wuxuu ka mid yahay meelaha mafcuulu bihiga caamilkiisa waajib loo xadfo marka wuxuu ka dhigan yahay akhusu ayuha halaaث saddexdanaan gaar u sheegaya kalaaminaa marka aan leehay saddexdayadii baan ka wadaa min bayni man takhallafa canhu intii ka hadhay ee ka daahaday dhexdooda yaa saddexdayadii nalaga reebay oo dadka inay nala hadlaan laga reebay faاjtanabana الnaasu dadkii baa naga fogaaday aw qaala mise wuxuu yihi tagayaruu lanaa dadkiiba isukaaya bedelay isukaaya qalaadeeye oo dad qalaad oo kale oo na aqoonin oo kale nagu noqday xataa tanakarat lii ilaa ila qalaadaatay fii nafsii alardu dhulkiiba ila qalaadaaday dhul gariiba ila noqday famaa hiya biاlardi alatii acrifu dhulkii aan aqaanayba ma aha dadkoo dhan baa iga sii jeejanayo oo qof waliba wejiga ii xumaynayaayo qof aan la sheekaysta qof alla hadlaba aana garan sidaanu qof gariib oo meel aanan qofna ka aqoonin jooga falabithnaa calaa dalika sidaasaan ku joognay 50 laylatan 50 habeen baan sidaa ku joognay muqaatacadaas ku joognay fa amaa saaxibaaya labadii ninee saaxibaynkayga ahee kale fastakaanaa way isdhiibeen waqacadaa fii buyuutihimaa guryahooday fadhiisteen yabkeena iyagu ooyaya guryahoodii oohin la fadhiisteen wa amaa ana aniguse fa kuntu ashaba alqowmi waxaan ahaa nimanka ka ugu shaabsan baan ahaa ugu da'yar wa ajladahum ee ugu xoog badan fa kuntu akhruju waan soo baxayay guriga waan ka soo baxayey fa ashhadu salaata maca almuslimiin salaadan muslimiinta kala qaybgelayay wa atuufu fi laswaaq suuqaqa waan ku warwareegi jiray walaa yukallimuni axadun qofnana ilama hadlaynin wa aatii rasuula allahi sala alla alay slm rasuulka allaan u imaanayey fa usallimu calayhi waan salaamayey wa huwa fii majlisihi isagoo majlisiisii fadhiya bacda salaa salaaddii meesha ku tugaday isagoo fadhiyaan u imaanaya waa salaamayey fa aquulu fii nafsii waxaan isdhahayey hal xaraka shafatayhi biraddi salaami am laa salo dabadhaha ma dhaqdhaqaajiyo salaadta ma kaa qaaday baan islehay mise maya dee cod maanu uga qaadaynin laakiin inuu bal wuxuu feerinaya inuu rasuulku sala allau alay slm raalli ka yahay oo uu jecel yahay oo arrinka kale uu ka gelaayiyo cadaadin iyo ciqaabun uu ka gelaayiyo inuu rasuulku u carisan yahay u nacay uu rabaa inuu kala hubsado marka waan salaamayey markaasaan dabnihiisa fiirinaya dabnaha ma dhaqdhaqaajiyo baan islehay uma usallii waxaan ku tukanaya qariiban minhu meel u dhow wa usaariquhu nadar daymada ayaan ka xadaayey oo kol baan hoosta ka fiirinayay fa idaa aqbaltu calaa salaatii markaan salaadeyda kusii jeedsado nadara ilaya waa isoo fiirinayay wa ida iltafattu naxwahu markaan xaggiisa daymoodana acrada canii waa iga jeedsanayay marka kolkaas wuxuu ka gartay oo rasuulka alayh isalaatu wasalaam aan u cadhaysnayn ee uu cadaadinayo kolkaan kasii jeedsana waa isoo fiirinaya kolkaan kusoo jeedsana cishuu iga leexinaya xataa idaa taala dalika calaya arrinkaasu markuu igu dheeraaday min jafwati lmuslimiin muslimiintii goyntiina gooyeenihi yaan mashaytu socday xataa tasawartu ilaa aan fantay jidaara xaa'idi abi qataada abu qataada beertiisa derbigeedii ilaa aan fantay oo albaabki maan soo garaa inay beerta uga dhacay derbiga wa huwa bnu cammi waa ina adeerkay wa axabu nnaasi ilaya dadkana kaan ugu jecelahay weeyaan fasallamtu calayhi waan salaamay fawallahi maa radda calaya asalaam salaamtii ma aan iga qaadin faqultu lahu markaasaan waxaan ku yidhi ya abaa qataada abu qataadow abu qataadana magaciisa alxaaris ibni ribciya baa la yidhaahay radia allahu canhu anshuduka biاllahi allaan kugu dhaariyey hal taclamu an yuxib allaha warasuulahu bay og tahay in aliya rasuulkiisa jeclahay fasakata waa aamusay facudtu waan ku noqday oo fanaashadtuhu waan dhaariyey fasakata waa aamusay mar labaadkii facudtu waan ku noqdo fanaashadtuhu haddana waan dhaariyey 3 goor marka 3 goor haddii marka qofka lala hadlo oo kula hadlo waa inaan laga wada aamusin faqultu markaa faqaala markaasuu uhi allah warasuulu aclam aliya rasuulkiisa aliya rasuulka inaan jaashin kale fafaadat caynaaya labadaydii indhood baa ilmeeyey ilmaan isu sii daayey fawallaytu waan noqday xataa tasawartu ljidaar ilaan darbigii fantay oo xagga kale uga dhacay fabaynaa ana amshi mar anigu aan socday fii suuqi اlmadiina walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.